بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعيد السلامة دكتور عبد السمد يا عاشا. Thank you. Malaa'igta salaanta. waxaan maanta maaragtay halkan aan ku sameynaynaa barnaamijkii aan ugu talagalnay inaan ku wacyigelino Soomaalida qurba joogta ah iyo guud ahaanba Soomaalida meel kastaba ha ku noolaadaan inaan runtii aanu keenno dad khubro ku ah meelaha ay maaragtay ka shaqeynayaan. maanta waxaa marti inoogu ah Dr. Abdisamed Cali baa inoogu ah maanta marti oo ah dhaqaatiirta ka tirsan waddankan Ingiriiska bayskiisana uu yahay magaalada Birmingham. dhaqaatiirta runtii ku takhasusay neefsashada iyo sanbabada weeyo kale asaga maaragtay si fiican inoogu sii faahfaahin doona. laakiin runtii dadka ka shaqeeya ah cudurkan hadda COVID-19 ka loo magac daray ee dadka aafeeyay runtii meesha maaragtay gargaarka degdega loo geeyo dad dhaqaatiirta ka shaqeysa oo ku howlan ayuu ka mid yahay. waxaa kaloo maanta marti inoogu ah Caashe Raage oo ah iyaduna qof dumar oo runtii aad iyo aad noogu qaali ah oo qiimo badan oo ka mid ah ururada Soomaaliyeed ee aadka ugu howlan runtii sidii wax looga qaban lahaa dadka uu runtii saameynta ku sameeyay xoogga leh cudurkan COVID-19 ka. marka labadiinaba soo dhawaada. waxaa gadaal naga soo geli doona oo kale oo asagana maaragtay maanta nagala qayb qaadan doona barnaamijka Sheekh Cusmaan Usuli oo ah sheekh runtii aad iyo aad asagana u qiimo badan oo aad dadkuna u yaqaanaan oo asaguna dhinaca maaragtay xagga diinta asaga laftigiisa nagala qayb qaadan doona waxay diinteenu ka qabto ka hortagga cudurkan iyo faafidiisa iyo sidii dadkeena aan runtii ugu dhiirigelin lahayn Ilaahay subxaanahu wa tacaala xismata bixiyo. waxaan marka ugu horeysa jeclaan lahaa inaan fursadan aan u qaato marka ugu horeysa inaan dadkii ku dhintay Soomaaliyeed ee cudurkan runtii darsi u dhintay Ilaahay subxaanahu wa tacaala u naxariisto jannadiisana ka waraabiyo ehelkoodana samir iimaan uu ka siiyo. dadka hadeertaan ku xanuunsan oo Soomaalidana Ilaahay runtaa inuu maaragtay qaadir raxmaanka inuu caafimaad taama uu siiyo ayaan ugu duceynaynaa. marka waxaan jeclaan lahaa marka ugu horeysa inaan ku soo dhaweeyo Dr. Abdisamed. Dr. Abdisamed waxaan jeclaan lahaa marka hore xogaa yar maaragtay hadda adiga warbixin yar iska bixisay shaqadaada ku lug leh dabadeedna markaas aad maaragtay naga siisid maaragtay mawduucan maanta shaqadaada qaybta aad ka qaadatay aad kana qaadanayso runtii oo maaragtay soo diyaarisay presentation asagana baan filayaa. marka Dr. Abdisamed soo dhawow. السلام عليكم جواهر وان كسلامي دمان dadka soo qayb galay barnaamijkan iyo sida fiican ee adiga iyo guddigaaga aad u soo qaban qaabiseen aad iyo aad ugu mahadsantihiin. anigu waxaan ka shaqeeyaa hadda magaalada Birmingham. waxaan ku shaqeeyaa qaybta la yiraahdo sanbabada caafimaadka. waxaan agagaarkan hadda ka shaqeynayaa muddo 9 sano ah. marka waxaan u maleynayaa sanbadu markii hore waxay ahaayeen back seat ama kursiga gadaal ay fadhiyeen laakiin nasiib darro runtii cudurkan COVID-19 ayaa horay soo mariyay. waxaan fiirinaya shalayto BBC-da top 10 tobanka wax ugu badan oo la akhriyo kullina waxay ahayn coronavirus. dadkii noloshooda ayuu saameeyey, waqtigoodii ayuu saameeyey, shaqadoodii ayuu saameeyey. marka sababtaa darteed ayaan dabcan adiguna aad barnaamijkan u qabatay aniguna aan uga soo qayb galay. aad baad u mahadsan tahay Cabdisamed. marka waxaan jeclaan lahaa inaan maaragtay muxuu ahaa barnaamijkeena waxa weeye adaan ku siinayaa presentationkaagaad samaynaysaa haddii Ilaahay yiraahdo. kabacdina waxaa jiri doonta dadka maaragtay daawadayaasha ah ama nugula jira khadka ama ha ahaado Zoom-ka ama ha ahaado khadka Facebook-ka in marka aan siino fursad ayagoo wixii su'aale iyo qaba adiguna aad maaragtay jawaabahooda aad maaragtay aasisid haddii Ilaahay yiraahdo. soo dhawow Dr. Abdisamed. aad baan dhawahay jazakallahu khayran. ma aragtaan screen-ka ma loo jeedaa? waa loo jeedaa ha. ugu horreyn waxaan rabaa inaan iraahdo ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda muslimka Ramadaan Kariim kulla caamin wa antum bikhayr.
waxaan rabaa inaan marka xigo sharxo insha Allah ta'ala qofka marka uu ku dhaco cudurka COVID-19 sida isbitaaladu ayay ula tacaalaan waxaan rabaa inaan dadku inay maqlaan kelmadda ula tacaalaan sababtoo ah cudurkan daawo ma laha qofkii uu ku dhaco waxa uu qaban karo dhakhtarku waxa weyn inuu la tacaalo wixii kalmaati ama gargaar uu siin karana uu siiyo marka hore waxaan bixin doonaa insha Allah ta'ala horudhac waa maxay cudurka COVID-19 COVID-19 waa cudur ka yimaada coronavirus 2 viruska la yiraahdo oo badanaa saameeya sanbabada laakiin jirka intiisa kalena dhibaato gaarsiin kara wuxuu bilowday dhammaadkii sanadkii 2019 saas ayaana loogu bixiyey kelmadda 19 COVID-na waxay u taagan tahay coronavirus disease marka COVID-19 saas ayaa loogu soo gaabiyey wuxuu ka bilowday magaalo la yiraahdo Wuhan ee ku taala dalka China markuu bilowday waxaa dhacday in xoogaa waxaa la yiraahdaa iclaamka iyo meediada laga qariyay dowladda China ay isku dayday inay ayaduna xakamayso dadkiina aysan aysan macluumaad sax u gudbin saas ayaa waxa sababtay inuu u gudbo magaalooyin kale oo China ka bacdi wuxuu u gudbay dalka Philippines ku yaala uusan jirin ilaa hadda waxaa la sheegaa inuu ku dhacay ku dhawaad 3 milyan oo qof ay u dhinteen ilaa 200,000 oo qof calaamadaha lagu garto COVID-19 kolba waxaan u maleynayaa waad ka dharagsan tihiin waxaa ka mid ah qofku inuu qufacaasna uusan qofkuusan waxaa ka soo saarayn in qofku uu maxaa la yiraahdaa qandha qabato ama xaraaradiisa ama temperaturekiisa uu kor u kaco qofku inuu daalo waxaan ku aragnaa dadka ajnabiga ama dadka madow daal badan jir xanuun badan iyo waxaa jira calaamado kale oo aanan markii hore aanan dadka u caddayn in cudurkan uu leeyahay sida qofku in maxaa la yiraahdaa caraftu ka tagto qofku cuntada ama baraafunka uusan carfin karin uusan dhadhamin karin cuntada hortaalla si kastoo u macaan tahay in qofku uu calool baxo waxaa intaasii dheer waxyaalo kale oo halis gaarsiin kara wadnaha maskaxda iyo meel walba jirka meel walba gaarsiin kara dabcan waxaad ogtiin sida loo kala qaado dadku waa ka dharagsan yihiin baan u malaynayaa waxa loo kala qaadaa qof qaba cudurka ama astaantiisa ha lahaado taasna waa in la xasuusnaado dad waxaa jira astaantii cudurka aanan lahayn oo cudurka gudbin kara qofkaas oo qufaca markuu qufaco ay ka yimaadaan qufaciisa ama hindisadiisa ay soo raacaan dhibco ama dropletkaas ayaa qofka kale ama neefsanaya ama meel uu dropletkaas ku dhacay ayuu intuu taabto ayuu afkiisa ama sankiisa ama indhihiisa gaarsiinaya sidaas ayaa marka sida u badan loo kala qaadaa dropletkaas meeqa ayuu hawada ku jiri karaa wax cad oo la og yahay ma aha qofka qufaca inta uu ku jiro ee uu ku gaarsiin karo markii hore waxa la dhihi jiray 2 mitir dad baa waxay leeyihiin 6 mitir wax iyada la isku raacsan yahay ma aha laakiin guud ahaan saas ayaa loo kala qaadaa marka waxaa muhiim ah oo aad u aragtaan aad u maqashaan ka hortagga iyo muhiimadda ay leedahay sababtoo ah marka aan qaybta dambe aan hadalkayga u gudbo waxaad ogaan doontaan ka hortaggu inuu aad iyo aad uga muhiimsan yahay in la daaweeyo marka in guriga la joogo muhiimad bay leedahay sababtoo ah adiga haddaad qabtin dadkii uma gudbinaysid dadkii qabin kuma soo gudbinayaan gacmahaaga inta meelo kusoo taataabatid ilmahaaga reer guriga kula joogay uma gudbinaysid waxaa kaloo muhiim ah qofku inuu gacmihiisa uu saabuun ku dhaqo muddo 20 second ah si uu viruskaas u dilo qofku inuusan taaban jirkiisa meelaha uu virusku galo sida afka sanka iyo indhaha qofkii isku arka calaamadahana inuu iskarantiilo gurigiisa uu joogo muddo 7 maalmood ah ka bacdina uu fiiriyo inay weli calaamadihii jiraan haddaysan jirin qofka waxa la yiraahdaa dadka u bixi karaa laakiin baaritaan markii la sameeyey waxaa la ogaaday ilaa muddo 20 maalmood ah qofka qufaciisa inuu weli ama dhibicdiisa ka soo baxaysa afkiisa in weli viruska laga heli karo viral shedding inuu jiri karo ilaa muddo 20 maalmood ah marka karantiilkuna saas ayay muhiim u tahay waxaan kale oon rabaa inaan halkan maxaa la dadka aad iyo aad ugu booriyo inay ilaaliyaan dadka jilicsan oo ehelkooda qofka waalidka ah qofka xanuunada qaar qaba oon gadaal uga hadli doono in la ilaaliyo waa sax in la soo salaamo inay muhiim tahay laakiin ay muhiim tahay
in laga ilaaliyo cudurka sida kaliya looga ilaalin karo qof walba inuu gurigiisa joogo qofkii cudurka qaban oo meel isu karantiino intaa wixii ka dambeeyana waxay ku xiran tahay dal walba iyo dad walba iyo waxay awoodaan marka qofka xanuunka qaba haddii uu guriga joogo waxa u habboon inuu asagu iska warqabo oo u nasto biyo badan cabo sababtoo energy baa qofka ka lumaya inuu xanuun baabi'iyo cuno paracetamol baa ku filan haddii paracetamolka wax ka weyn u baahdo inkastoo doodo badan ka timid ibuprofenka oo kale uu cuni karaa qofku inuu ehelkiisa ilaaliysaan hore u sheegnay mujtamaca guud ahaan baynu ilaaliyo marka waxaan u gudbahayaa qaybta aan rabay inaan ka hadlo oo ah qofku marka uu isbitaalka yimaado muxuu filanayaa inuu la kulmo wuxuu filanayaa qofku in uu qaabilo nurse iyo dhakhtar oo laga baaro laga fiiriyo waxyaalaha muhiimka ama vital signs-ka la yiraahdo sida blood pressure-kiisa in la fiiriyo inuu hooseeyo qofka hadduu blood pressure-kiisa hooseeyo waxaa dhacda inuu u baahdo in isbitaalka la jiifiyo waxaa kaloo la fiirinaya aad iyo aad muhiim u ah la markaas meesha ku qoran waxa la yiraahdo oxygen saturation ama qofka oxygenkiisa oo inta farta la saaro sensorkaasna uu sheego qofka oxygenkiisa meesha joogo meeshaas waxaa ku qoran 97 97 marka wax alla wixii ka badan 94 iyo agaarkaas waa la aqbalaa wixii ka hooseeya waxay sababaysaa qofka in la sii baaro oo laga fakaro inuu u baahdo qofkan isbitaalka la dhigo waxa laga qaadaya qofkii dhiigag fiirinaya in ay jiraan calaamado infection inuu jiro waxa kaloo laga yaabaa waliba haddii uu qofku oxygenkiisa saturationkaas ay hooseyso markii lagu fiiriyo mashiinadan monitorka in laga baaro in laga qaado dhiig toos xididka la yiraahdo arteryga la yiraahdo oo cirbadaas oo kale looga qaado la yiraahdo ABG waa xanuun badan tahay dad badan ama jecla annaguna inaan qaadno ma jeclin laakiin qofkii u baahda taas laga qaadaya si toos ayaa marka qofka waxa loo arkay oxygen levelkiisa intuu marayo inta marka uu dhakhtarka sameeyo wuxuu u gudbayaa tan muhiimka ah markii COVID-19 laga hadlayo qofkii in laga qaado chest x-ray ama raajada sambabada saan bay waqtay meeshaas kala qofka la geenaya hadduu istaagi karo hadduu istaagi karina sariirtiisa loogu imaanayaa waxa soo baxaya marka raajadaas oo kale ayaa soo baxayso dhakhtarku arkaya intaas markuu dhakhtarka arko qofkiina uu wareysto ayuu wuxuu gaarayaa go'aamadaas uu gaaraya waxay tahay qofkan isbitaalka inaan jiifiyo miya mise waa inaan gurigiisa u diro marka yaa isbitaalka la jiifiyaa isbitaalka waxaa la jiifiyaa qofkii oxygen u baahda markii aan mashiinka haddaa intusayo qofka haddii oxygenkiisu uu 94 iyo wax ka hooseeya uu yahay oxygen baa lagu xiraa qofkii u baahdana waxaa laga fekeraa in isbitaalka la dhigo ama waxaa lagu khasbanaada in isbitaalka la dhigo waxaa jira dad aan oxygen u baahnayn laakiin xanuunku aad u saameeyey مثلا qof aan socon karin baa marmar noo imaada qof muruqihii aad u xanuunahayaan qof aan dhaqaaqi karin waliba dadka da'da ah ayaa saasa markaas qofkaas kale waxa laga yaabaa in asagan la dhigo oo hadhowti waxyaalaan sheegi doono la siiyo waxaa jira mararka qaarkood qofku in laga dareemo virusku in uu meel aan sabab ka ahayn u gaaray مثلا wadnaha dhiig ayaan sheegaya in dhiigga wadnaha hadday kor u kacaan ama markii la saaro ECG-ga waxa la yiraahdo oo wadnaha la fiiriyo in uu dhibaato gaaray haddii dhibaatadaas la arkana qofkaas kale waa la jiifiyaa marka go'aamadaas la gaaraa dabcan dhakhtarku markuu qofka arko ayuuna gaarayaa waxa kale oo si gaar ah loo fiiriyaa dadka uu virusku uu khatarta uu ku hayo marka waxa jira dad gaar ah oo haddii uu virusku ku dhaco aan u baqno dadkaas waxa ka mid ah dadka weyn qofka da'diisu hadday 65 iyo kor u dhaafto waliba ragga ayuu dhibaato badan ku haya oo 70% dadka aan isbitaalka ku aragno ama dadka la seexiyo ama dadka ay dhibaatada weyn ka soo gaarto ragga weey waliba ragga da'doodu ay ka weyn tahay 65 cudurrada qaar dadka qaba ayagana dhibaato ayuu u keenaa مثلا dadka sokorta qaba dadka dhiig karka qaba dadka wadna xanuunka qaba dadkaasna si gaar ayaa lagu fiiriyaa oo waxa markaas la go'aamiyaa in isbitaalka la jiifiyo haddii dabcan lamaradan soo sheegay ay lagu arko mararka qaarkood waxa laga yaabaa qofka inuusan intaas soo gelin baaritaanka uu na tuso
مثلا dhiiggiisu ay qofka aad u kacsan yihiin wadnihii in wax gaaray la arko raajadii markii la fiiriyo uu virusku uu aad u saameeyey qofkaasoo kalena waa la jiifiyaa marka haddaan u gudbo marka dadku saddexdaanay u qaybsamaan si guud haddaan u kala qaybiyo saddexdaan qaybood bay u qaybsamaan boqolkiiba 80 dadka xaaladoodu waa fududahay guriga loo diraa markii la fiiriyo hadhowtina waxa laga yaabaa asbuuc labo inay ka boodaan oo ka socdaan boqolkiiba 15 dadka waxaan iraahdaa xaaladoodu waa culus tahay dadkaas oo kale waa la seexiyaa haddii xaaladoodu ay culus tahay laakiin oxygen-ka ay u baahan yihiin مثلا uusan aad u badnayn oo kale waxaan seexinaa qaybta guud ama general medical ward haddii intaas ka badan uu u baahdo waana sharxi doonaa intaas ka badan wuxuu u baahan doono qofku waxaan seexinaa qaybta sanbabada waxaa soo haray boqolkiiba 5 waxa weeye dadkaan iraahno xaaladoodu waa halis ama naftooda ayaa halis ku jirta dadkaasoo kale waxaa la geeyaa qaybta neef ku dhowrka la yiraahdo ama dadka ingiriiska ku hadla ay yiraahdaan intensive care ama العناية المشددة qaybtaas ayaa la seexiyaa ayaga dadkaasi ayaga wax la siin doonana waan ka hadli doonaa insha Allah taala waxa soo haray dadka la seexiyay qaybta guud la seexiyay sida hore u soo sheegay waa lala tacaalaa coronavirus ee wax daawo oo toos ah ma laha marka waxaan siinaa caawimaad guud ama kaalmaad sida xanuun baabi'iye oo kale sida xanuunada daawooyinka jabiya xanuunada qandhada daawooyinka jabiya qofkii aan aragno in wax bacteria ay jirto maadaama uu covid-19 uu virus yahay aysan bacteriyaduna aysan qayb ama aysan role aysan ku lahayn dadka qaarkood waxaa jira viruskii inuu ugu darsoomo bacteria dadkaasoo kale antibiotic baan siinaa waxaa la suraa dadka faleebo la siinahayo biyo lagu siinahayo ama biyo cusbala lagu siinahayo si dadka enerjigooda loo soo ama nafaqo loo siiyo si enerjigooda qofka u soo kaco waxaa kale oo dadka lagu duraa oo sawirkan dhexda ku jira ka muujinaya daawooyin joojiya xinjirowga marka waxa laga yaabaa dadka inta Soomaalida inta qofka la tuso uu ka shakiyo maadaama aanan annagu Soomaaliya markii la joogay aanan badana la isticmaali jirin isbitaalka qof kasta oo la seexiyo haddii aan islaanahay qofku dhowr maalin buu jiifanayaa waxa lagu duraa daawooyin joojiya xinjirowga maadaama qofku isbitaalka hadduu jiifo oxygen-kiisa hooseeyo uusan dhaqaaqayn uusan cunto cunaynin ay sahlan tahay jirkiisa inay dhiiggiisu inuu xinjiroobo xinjirtaasna ay u gudubto sanbabada oo halis gelin karta qofka naftiisa u dhiman karo waxaan aragnay taasoo markii hore badnaan jirtay dadka uu ku dhaco covid-19 inay ka sii badan tahay ma 2 jibaar ama 3 jibaar marka aad iyo aad ayaa looga taxadaraa oo cirbadaas ayaa lagu duraa wixii intaa ka badan qofka oxygen ayaa la siiyaa oxygen-ka u baahdo hadday 4 litir 5 litir tahayna qaybtaasaa lagu hayaa hadday intaa ka badan tahayna waxaan u gudbinaa qaybta sanbabada oo annagana loo keenaa waxaan kaloo rabaa halkan inaan Soomaalida u sheego inaysan maadaama uusan cudurkan uusan lahayn wax daawo ah waxaa jira daawooyin tijaabo ay ku socoto oo dadka la siiyo qofka isaga ayaa idin la weydiinayaa haddii uu ogolaado ayaa daawooyinka la siinayaa hadduu diidana lama siinayo daawooyinkaas iyo haddii ay dadku su'aalo ka qabaanna diyaar baan inaan ka jawaabo laakiin haddii aniga aan isbitaalka la dhigo oo la yiraahdo ma qaadanaysaa waan qaadan lahaa sababtoo ah cid og wax lagu daaweeyo cudurkan ma jirto dadkuna waxay ku daaweeyaan dalalka qaarkood mala awaalkaas ayaa hadda waxa ku socota tijaabadaas qofkii la yiraahdo ma ka qayb galaysaa hadduu aqbalo waa la siiyaa hadduu diidana lama siiyo hadduusan qofku awoodin inuu asaga jawaabana ehelkiisa ayaa lala hadlaa qof la iskama siiyo asaga ama ehelkiisu aysan aqbalin taasna waa muhiim dadku inay fahmaan oo la socdaan haddii aan usoo gudbo qaybta sanbada markiina loo keeno qofka haddii oxygen-kiisa uu bato oo oxygen-kii sanka laga siinayo ka badan uu u baahdo annagana loo soo gudbiyaa marka waxaan ku samaynaa qofka xabad ayaan u seexinaa wax la yiraahdo pronin ayaan ku samaynaa sababta waxa weeye meelaha ugu badan ee uu saameeyo cudurka covid-19 waa sanbada ayuu wuxuu ku sameeyaa lahan ama inflammation iltihaab lahankaas ayaa wuxuu sameeyaa biyo ayuu sanbada ku aruuriyaa
biyahaas marka qofku hadduu dhabar u jiifo qaybta dhabarkiisa xigtee sanbabada ayay fadhiistaan qaybtaas ayaana ugu muhiimsan sanbabada marka waxaan samaynaa qofka waxaan idhaahnaa xabad u seexo biyihii waxay imaanahayaan dhanka kore dhaymkii aad u baahnayd marka ay neeftu ay kugu ceshato ayaad markaas waxaad samaynaysaa in ay biyo la'aan noqoto oo maxaa la yidhaahdaa ay hawadu gaarto oo qofkii oxygenkiisu markaas kor u soo kaco inta hadday shaqayn weyso qofkan waxaan ku xirnaa maaskan la yidhaahdo CPAP oo kale wuxuu sameeyaa hawo ayuu sii daayaa oxygenkiina ay la socoto marka qofkii hawadiisay furaysaa waxay furaysaa alveoli wax la yiraahdo oo mataqaana hawo mareenka hoose oo yar yar ah qofkii marka oxygen fiican ayaa jirkiisa gaaraya waxaan ka digaynaa marka qofkii in uu intaa ka badan u sii baahdo oo u gudbo intensive care haddii uu qofku intensive care u sii gudbo xaaladiisu waa xaalad culus oo maxaa la yiraahdaa qofka dabcan u gudbo qof aan anagu aan ka walwalayno marka waxaan samaynaa labadaas shay ayaan tijaabinaa annagoo intii hore aan soo sheegayna u sii wadna intaas ka dambe haddii aan la tacaali weyno waxaan u gudbinaa qaybta intensive care-ka ama qaybta neefku dhowrka la yiraahdo qofkii halkaa loo gudbiyo waxaan ku qoray maxaa la yiraahdaa guduud ayaan ku qoray meeshaas qofkii halkaa loo gudbiyo waa qof aan ka walwalayno cudurkan waa cudur dilaa ah cudur kaftana ma aha qofkii intensive care gaara 60% waa dhintaa dabcan ilaahay qofku u qoro ayaa dhinta laakiin 60% iyo ka badan meelaha qaarkood qofkii loo gudbiyo waxaan ka hadlayaa dalalkan hormaray oo mashiinadii haysta waa dhintaa markii qofka loo gudbiyo waxay sameeyaan qofkii way suuxiyaan mashiinkaas ayay afka ka geliyaan daawooyin ayay siiyaan waxay isku dayaan marka inta jirka qofkii viruskiisa uu maxaa la yiraahdaa ka baxayo oo daawooyin kale la siinayaan ay shaqaynayaan qofkii inay la tacaalaan waxaa dhacda mararka qaarkood qofkii intaas markaa siisay ka badan inuu u sii baahdo jirkiisa oo ay keliyuhu fariistaan marka waxay ku xiraan bahashan keliyaha lagu sifeeyo oo filterka la yiraahdo ayay ku xiraan mararka qaarkood qofkii ay keliyihiisu fariistaan annagoo u sii baqaynay qofkii la geeyo qaybta neefku dhowrka aad ayaan ugu sii baqnaa waxaa mararka qaarkood dhacda inuu wadnaha wax gaarsiiyo qof dadka ay wadnahooda uu gaarsiiyo viruskuna 80% waxaa la dhahaa uu dhintaa marka waxaan rabaa marka ugu dambayn inaan ka hadlo xaalado culus ama su'aalo adag oo dadka Soomaalida ah ama qof kasta oo cudurkan ku dhaco ama ehelkiisa saameyn kara ama gaari kara ama taaban kara qofkii bukaankii oo markii hore laga yaabo inuusan afkii uusan aqoon dalkii uu joogay ayaan isbitaalka cidna u raaci karin oo keligiis noqonaya runtii waa xaalad adag xaalad cabsi qofka gelin karta waxyaalo badan ay isbitaalladu isku dayaan inay dadkii taleefanadooda u charge gareeyaan ama inay u geeyaan iPad dadkiisa kula hadlaan ama video call ay ku sameeyaan laakiin dabcan waa dareemi kartaan qofkii markii aad isagiina la tacaalaysid 10 kalena ay ku sugayso way adkaataa waxaa kaloo dhici karta in bukaankii xaalkiisa ka sii daro oo lagu soo waco haddaad ehelkii tahay oo lagu yiraahdo qofkii waa sii xanuunsaday waa telephone la isku diro waxaan u malaynayaa annagu aan sameeyno ka ugu adag dabcan qofkii ehelka ah loo dirana oga sii daran markaas kale waxa laga yaabaa in lagu yiraahdo qofkaas waxba uma qaban karno oo markii hore dhici jirtay isbitaalada dadkii yimaada inaan teleefanadaas u dirno laakiin dadkaas imaada oo aan idinla hadalna dhihi jirnay hadda ma samayn kartid sababtoo ah qofkii asagii baad u baqaysaa laftirkiisa hadduu isbitaalka yimaado inuu viruska qaado oo bukaan kala noqdo waxaana dhacaysa mararka qaarkood 3 qof inay maxaa la yiraahdaa kugu sakaraado oo mid intaad ehelkiisa raadinaysay uu kugu dhinto mararka qaarkood waxa dhacda qofkii inta wacdid inaad tiraadid qofkii ehelkaagii ahaa Allah naxariisto waa dhintay marka taleefanadaas oo kale oo dhib badan ayaan mararka qaarkood dirnaa waxaan u maleynayaa wixii ugu adkaa oo nolosheeda aan qabto inay ahayd qof inta waco inay raado qofkaad la hadlaysa 2 saac ka hor waa dhintay marka dabcan ugu dambeynna bukaanka inay geeri ku timaado ehelkiina ay tacsi u imaado waxaan su'aalahan adag ugu sheegayaa dadka Soomaalida ah
maadaama aan arkay adinkuna aad aragteen qof walbana uu arkay sida loo yaraysanayo cudurkan runtii cudurkan ma aha hargab hargabka waxaa la yidhaahdaa kunkii hal qof ayaa ku dhinta cudurkan laakiin dalalka hormaray waxay yidhaahdaan waxaa ku dhinta boqolkiiba 3.5 3.3 ku dhowaad boqolkiiba 4 qof ayaa ku dhinta marka waa ka halis badan yahay hargab waa ka halis badan yahay cudurradii kale oo aan arki jirnay waxaan dadka ku wacdi gelinayaa in ay u hoggaansamaan talooyinka la siinayo oo ay u hoggaansamaan inay gurigooda joogaan ay raacaan talooyinkaas si looga hortago inay ayaga ama ehelkooda ama qof ay jecel yihiin oo dhibaatadan maro marka ugu dambayn waxaan rajaynayaa inaad fahanteen cudurkan COVID-19 inuu yahay cudur halis ah uusan hargab ahayn inay muhiim tahay in la raaco talooyinka caafimaadka waxaan rajaynayaa inaad fahanteen waxa uu filanayo qofkii yimaada isbitaalka aad ayaad u mahadsantihiin aad iyo aad baad u mahadsan tahay Dr. Cabdisamed sida maarkno qiimaha badan runtii ee warbixinta iyo macluumaadka noogu soo gudbisay cudurkan COVID-19 iyo dhibaatooyinkiisa iyo dadku waxyaabaha ay runtii ay filan karaan markay tagaan isbitaalka oo inta badan markaa fiirisay dadkeena runtii iyo dad badan oo kale xataa kulli waxaad arkaysaa macluumaadyo qalad oo runtii la isla dhex maro dadku inay ka cabsi qabaan runtii inay isbitaalka xataa ay tagaan caawinaad xataa haday aad u liitaan inay caawinaad ay runtii weydiistaan iyagoo runtii in badan iska dhaadhiciyeen in maaragtay isbitaalka haday tagaan ay ku dhimanayaan marka runtii sida aad u soo gudbisay waxay ahayd si runtii aad iyo aad dadka uga maaragtay aan filayay inay ka siisay faahfaahin dheeraad ah in isbitaalka waxa yaalla ay tahay runtii daryeel iyo xanaano iyo in ay dadku ay runtii ku dadaalayaan dhaqaatiirtu sidii qof kasta u yimaada ayaga ay maaragtay u badbaadin lahayn ilaahay baa runtii wax badbaadiya waxaan filayaa su'aalo iyo jawaab hadda ma haysano waxaan fiirinaynay maaragtay online-ka dadka maarkano nagula jira hadday suurtagal ku tahay inaad la sii joogtid inta barnaamijku soconayo waxaa laga yaabaa su'aalo inay gadaal ka yimaadaan aad baan u jeclaan lahayn markaas waan kuu soo gudbinaynaa haddii ilaah yiraahdo ماذا سؤال قبتي عاشا؟ No, sorry. Okay. marka waxaan u gudbaynaa hadeertaan qaybteennii barnaamijka labaad muxuu ahaa aan ku soo dhaweynayno Sheekh Cusmaan Xaaji Yuusuf Sheekh Suuli oo asagu runtii ah sheekh culamadeena runtii aadka karaamada leh nala jooga waddankan UK magaalada London aanu muxuu ahaa jecelnahay inuu inoo iftiimiyo sida ay runtii ay muhiim u tahay in aanu raacno talooyinka maaragtay caafimaadka iyo dawladaha wadamada aanu ku noolnahay haddaan nahay qurbo joog haddaan Soomaali nahay meel kasta oo joogno si aan nafteennana u ilaalino dadka kale naftoodana runtii caafimaadkooda aan u ilaalino waanu maqalnay warbixintii oo Dr. Cabdisamed siiyay iyo cudurkan runtii inuu cudur halis yahay cid walbana kama daahna waa cudur dilaa ah marka diintu waxay ka qabto runtii dad badan baa waxay yiraahdaan ilaahay baa maaragtay qofka dili kare muxuu ahaa aniga wax kale iga sameynayaan oo maaragtay wax iyagu rabeen shaqooyinkoodii iyo howlahoodii iska watay runtiina maaragtay inay taxadaraan maaragtay ay maaragtay mararka qaarkood laga yaabo inay ka baxdo meesha waxaan jeclaan lahaa inaan soo dhaweeyo Sheekh Cusmaan jiro. Yeah, there's one question. There's one question for Dr. Cabdisamed. Yes. How do you self-isolate when there are too many people in the house? Dr. Cabdisamed ma maqlaysaa? ma Soomaalian ku jawaab mise English? Somali. qofka Soomaali miya? qofka waa Soomaali ha. waa dhib dabcan qofka gurigiisa jooga inuu gurigiisa uu isu karantiilo laakiin talooyinka la bixiyo waxa qofka in qol gaar ah asaga loo sameeyo dadku cuntadiisa ay u geeyaan dharkiisa maalan uu ku rido 2 bac hadhowtiina uu meesha lagu dhaqo dharkiisa uu asagu geysto dhaqo dadkana ay u baneeyaan sababtoo ah waxaa muhiim ah dadka inuu qofku uu ka fogaade muhiim yani
hadduu qofku asagu intuu soo baxo wixiisa asagu dhamaysto qolkiisa ku noqdo intaasna uu iska ilaaliyo dadka inuu la kulmo dabcan qofku saas ayuu self isolation ku samayn karaa aad baad u mahadsan tahay su'aal kale miyaa jirta Mandeq may okay su'aal aniga weydiin lahaa doctorka de suurgalta haye waa weydiin kartaa ay fadilta sheekh barakallahu fiik doctor mas'alooyinkan la sheegay oo ah dadka qoraxda viruska oo ku dhimanaya iyo darajada hadduu gaaro arrintaas maxaa kan naga dhihi kartaa kuleelka horta fadilta sheekh waxaa jirta dood socotay intuusan dalalka kulul gaarin Afrika intuusan aad u gaarin inay dadka qaarkood ay yiraahdeen maxaa la yiraahdaa cudurku hadduu dalalka kulul gaaro wuu baaba'ayaa dalalkaana ay yiraahdeen haddii samarka la gaaro cudurku waa sii yaraanaya marka waxaan u malaynayaa arrintaas inay la xiriirinayeen virusyadii ka horreysay qaybta influenza la yiraahdo oo badanaa dadka ku dhaca bilaha qabow markii la lahaa saas oo kale u dhaqmi doonaa laakiin saas uma dhaqmin dood kulul ayaa ka timid wax la og yahay ma aha waxaan ognahay ilaa hadda dalal kulul oo humiditygeeduna ay sarreyso sida maxaa la yiraahdaa Singapore oo kale inuu ugu dhaco oo u gudbo sida halkaan oo kale u gudbo waad maqashay Djibouti hadda kolba u sii socdaa Soomaaliya si maalin ka dambaysa waa sii kordhaya marka arrintaas arrin ma aha la isku waafaqsan yahay ma aha waxaa isticmaalay dad markii horena rabay inay maxaa la yiraahdaa ay yareeyaan in la xiro businesska ama economiga dalka maalin horena waxaa laga yaabaa in arkaysay madaxweynaha Mareykanka oo isticmaalay iyo su'aalihii jawaabihii ka yimid oo ay ku timid shalayto inuu joojiyay inuu asagu dadka soo hor fariisto sababtoo ah maxaa la yiraahdaa dad dhakhaatiirta iyo dadka science-ka ayaa ku kacay la taliyihiisa hortiisa fadhiisay ayaa ku kacday marka waxay ku khasabtay inuu asagu ka noqdo wax la hubana ma aha wax la isku raacsan yahana ma aha marka dad Soomaaliya badan oo su'aasha ay weydiiyeen ustaadka yimidna waxaan ku iraahdaa waa su'aal muhiim ah laakiin haddaan Soomaali ahay ama haddaan dal kulul joogo aan jeclahay inaan u baahnayn inaan ogaado sababtoo ah haddaan raaco talooyinkii waxaana iska yaraadaan inta ay wax lagu tacaala daawo lagu daaway ay soo baxayso iska yarayno ilaahay subhanahu wa ta'ala Soomaaliya kuma sii kordhiye insha Allah ta'ala la kaaftoomi doono laakiin ma aha wax la isku raacsan yahay ma جزاكم الله خير بارك الله soo dhawow Sheekh Usmaan aad iyo aad baan kaaga mahadnaqaynaa sida aan nagala soo qayb gashay saad noo soo sharaftay ilaahay ku sharfo waxaan runtii jeclayn inaan diiradda saarno oon fiirino muxuu ahaa qayb qaadashada in cudurkan faafintiisa la yareeyo haddaan nahay qowmiyadda jaaliyadda Soomaaliyeed meel kastoonu joogno iyo diintu waxay ka qabteen inaan noo iftiimiso insha Allah soo dhawow jazakumullah khayran ما شاء الله جزاكم الله خير بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله مركو هراء إله سبحانه وتعالى مهدله إن صومالي لقاه لو دادكينا أنو كلا أو دادك وعي كلا إله وحكا بري ميزانك حسنات كلمات إلى أن نصعر حقيقة إسلام كمركات في ريسيد إلهي برادك ما كرامي نفتان إلهي سبحانه وتعالى وأدون كان هو أبورنا أصدق inuu adduunkan ku ilaaliyo ay ugu tala galay walidaalika waxa la xarantimay qofka naftiisa inuu dilo qofka inuu isdilo inuu qof kale dilo waa xaraam weey saas daraadeed ayaa haddana waxaad arkaysaa masaa'ibkan oo kale markay dhacaan islaamka laba arrin buu waa ku tawjiihiyey mu'miniinta ama dadka muslimiinta ah midka hore mid iimaani ah jaanib iimaani ah oo qofka muslimka inuu ogaado markasta ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu u qoraya ku dhacayo kullu yusibna ila ma kataba Allah lana huwa mawlana wa 'ala Allah falyatawakkal inuu qofka aamino naf kastana ajasheeda inay ku dhimanayso oo qofka iimaankiisa markasta ku dhisaa taasna waxay keenaysaa waxyaabaha cudurkan kordhiya oo laga yaabo dadka muslimiinta ahayn inay dib ka gaaraan walwalka ay qaadaan cabsidaas badan cudurka lagu dhimanaya anaga kaga fiican oo maadaama aaminsanahay iimaanka islaamkeena baray inaan qof naf aan waqtigeeda ugu dareynin aan waqtiga loogu dhaafin jaanibkaas marka waxa daba socda jaanibka hortag ah ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wala taqtulu anfusakum naftina hadilina naftan amaani kugu tahay naftan waxay kamid tahay kulliyatul qams oo xifdigeeda in la ilaaliyo marka si loo ilaaliyo
nafta waxaa loo xarantimeeyey qamraa loo xarantimeeyey waxaa loo xarantimeeyey wax kastoo caqliga daraagisa loo xarantimeeyey intaas waxay tahay naf ayaa lagu ilaalinaya shareecada islaamka walidaalika kuliyaadka islaamka ama tirirkiisa oo shanta ah waxay ka tahay qayb ugu muhiimsan naf in la ilaaliyo waxaa laga hortagay marka jaanibka waqiiciga waxay tahay ilaa uu nabiga calayhi salaatu wasalaam gaarsiiyey uu leeyahay baled hadduu ka dhaco daacuun ama cudur faafa daacuunka waxaa la yidhaha mararka qaarkood ma aha kan caloosha keliya cudur kastoo faafa ay culammadu ku tilmaamaan oo dadka ay isku gudbi karaan in wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam irshaadaad uuna siinayaa iyo wuxuuna siinayaa si maxaan samaynaa rasuulka allow markay su-aashaas iimaan karto wuxuu yidhi baled hadduu cudur faafa ka dhaco wuxuu yidhi falaa tadkhuluu ha gelina beledkaas ayaa la tegin wuxuu leeyahay haddaa idinka joogtaanna ha ka bixina hadalkaas wuxuu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu nagu barayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam in beledkaas aan joogna annaga macnaha haddii la yidhi beledka ha gelin cudurka ha u tegin waayo naftaada ka ilaali haddii la yidhaaho qaybta kale waxay tahay hadduu cudurku ku dhaco beledkadaa ka baxdid adiga waxay keeni kartaa inuu arrintaas ay keento inuu cudurka faafisid oo dad kale aa gaarsiisid marka hadduu islaamka heer gaarsiiyey maanta magaalada haddu shayn oo ka dhaca la yidhi in la yidhi ha aadin maxaa dhacay cudurka inuu kugu dhaca laga yaabaa haddii dadka shaynana jooga la yidhi oo muslimiinta ha kasoo bixina dadka kale ha u qaybinina halkaas waxaa ka cad islaamka inuu ilaaliyey in nafta la ilaaliyo walidaalika waagii cumar ibn khataab daacuunkaas dhacay ayaa waxaa dhacday nin saxaabi ah ayaa wuxuu ku yidhi cumar ayaa wuxuu yidhi jeyshka sham ayuu ka dhacay daacuunkii oo cudurka faafayay markaas wuxuu yidhi jeyshkii gelin markaasuu wuxuu ku yidhi ma ilaahay qadarkiisa ka baqaysaa cumarow nafta waa qorantay ma jeyshka halkaas geyn markaasuu cumar wuxuu ku yidhi naxnu nafiru min qadari illah ilaa qadari illah laftigeeda inaan asbaabta la imaano oo qofka inuu ilaahay dartiis u nool maxaa yeelay naftaa nolosheeda waxay kamid tahay waman axyaaha fakaannama axyaa naasa jamiica naf bini aadam inaa nooleyso saas daraaddeed arrintan ee dhaqaatiirta cilmi ayna siinayaan anaga oo ah in lees karantiilo inaan dadka loo dhowaanin waa waxyaabaha nafta lagu ilaalinayo shareecada islaamka waxay keentay hadda waxaa nala yidhi anaga masaajidoona laga xiray guryahan ku tukanaa sababta aan guryaha aqalada ugu tukanan waxay tahay in maanta aan la leeyahay cudur ayaa laga baqayaa inuu faafo ayib diinta islaamka ma qabtaa arrintaas ha waa qabtaa maxaa yeele nabiga calayhi salaatu wasalaam waagigiisii dhulka meel wadooyinka ma ahayn waddo laami ah ma ahayn dhiiqay ahayd masaajidka nabiga calayhi ninka soo aadayo hadduu roobto waxaa laga yaabaa inuu halkaas uu ku kufo walidaalika nabiga calayhi salaatu wasalaam ninka mu'adinku wuxuu amraayay in salaada lagu daro aadaanka in lagu daro salluu fii rixaalikum guryihiina ku tukada macnaheedu maxay tahay waxaa la diiday marka in masaajid u soo socdo oo dhiiqadaas ku jaba ama dhooqadaah meeshaas ku dhaco oo sinka jabto ama gacanka jabto lugka jabto ayaa la ilaaliya famaa baalika haddii hadda dhakhtarka soo noo sheegay la leeyahay nafta ayaa halis gelayso oo intaas marxalad la marayo ilaa iyo qofka la yidhaaho boqolkiiba 60 nin hadduuba intensive galaba in boqolkiiba 60 uu dhimanayo sidoo hadda noo sheegay mas'aladooyinkan marka islaamka waa xadida marka hore wuxuu leeyahay fas'alu ahla dhikri in kuntum laa ta'lamuun haddii wixii diinta ku saabsanaa waa nala weydiinaya dadka culummada diinta yaqaana la weydiinayo ayagana dhakhaatiirta culumay arrintan ku yihiin ninka makaan muhandiska ama injineerka guriga soo dhiso asaga ayaa la weydiinaya fas'alu ahla dhikri asaa ahla dhikri ku ah saas daraaddeed waxaa islaamkeena amraya haddii la leeyahay arrimahan oo kale xataa ninka sheekha in laga qaato maha arrimahan oo kale sheekha waa arrimo sida u kaabiya dadka u sheega waxaan ma dhici jireyn lanaga rabaa laakiin cudurkan saamayntiisii ah ahla dikrigeeda waa dadka dhakhaatiirta hadday ahla dikrigeena leeyihiin maanta war arrintaasaa dhacayso marka soomaalida waxaa cajiib ah inuu qofka marka uu dheelitiri waayo labadan aayad oo ahayd qul lan yusiibana ilaa maa kataba allah iyo jaanibkii wiqaa'iga ahaa haddii jaanib caqiida aad ka aamintay oo welwelka ilaahay kaa tiri oo cudurka hadduu kugu dhaco inaad ku sabartay ay tahay oo cudurkan haddii aad kuu qoranta inaad ka kacaysid aad ka kacaysid haddii aad ku dhimanaysid aad ku dhimanaysid jamcanaheeda maaha inaad tiraahdo quduu xidrakum nabiga calayhi salatu wasalaam aayad quraan kusoo degtada quduu xidrakum qofka muslimka inuu taxadirkiisa qaato oo naftiisa tahluku ku ridin ayaa asalka ah saas daraaddeed dadka jaanibka iimaaniga kala ictimaaday oo aan ka tegin nabiga calayhi salatu wasalaam ninba awr ayaa wuxuu yidhi awrkan wuxuu yidhi bahalaas inuu iska dayo inuu dabro wuxuu yidhi nabiga calayhi salatu wasalaam wuxuu yidhi icqilha uma tawakkal waxaa la doonaya xoolaha haddaad adiga ilaalsanin aad duurka kusii daadid oo bahalada ay cunaan aad waa tira ilaha tala saarto aska baxa cid dhahaysa ma haddaa laamigaan hadda istaagtid oo highwayga ah oo gawaarida aad tira ilaha tala saartay oo gaari isku dhigtid
ilaah tala saarta maaha ama aad tiraahid naftay way qorantaa goortay dhimanayso gaari isku dhiga wuxuu leeyahay maya ada istishaabay maxaa yeelay asbaabta inaa anaga ajashi way qorantahay oo ilaahay ogsoo meesha ku dhimanaysa laakiin asbaabtii qofka muslimka inuu la yimaado way asbaabta waxaa ka mid ah diinta ay aragtaa inaad baratid haddaad diinta baranin say u tukani kartaa salaad say u tukan kartaa salaad uu ilaahay cibaadada ahayd asbaabteeda waa inaad timaada inaad barataa wixii rukuucaha wixii sujuudaha laakiin ilhaamku soo dhacay ma leh walidaalika dadka waxaa ka maqan حديث النبي عليه الصلاه والسلام قالها يجمع احدكم في بطن امه 40 اسوق عروف afartan maalmood ayaa la kulminaa markaas wuxuu leeyahay nabiga calayhi waxa loo qoraa risqiisi waxa loo qorayaa ajishiisi marka ajishi loo kasoo qaadanaya hadda qol had isku soo xira aniga aan risqi raasanin risqi yimi maana samad risqi kama keenayso walidaalika waxa la doonayaa fas'u ila ilaahi subhanahu wa ta'ala uu leeyahay markuu ka hadlayo risqi raasisna lama dhigin ilaahi tala saar kaliya ku imaanay laakiin wuxuu leeyahay famshu fi manakibiha wa kullu rizqi risqu su'al wiila famshu fi manakibiha ilaahi adduumina baararkeeda dhan ku soco ما إلهي سبحانه وتعالى كجبر ومركزنا واحد إلهي قصي رادي لكن إنما لا أسكف فريسا ولذلك وحليه أن شرائع الإسلام وحي حوجني سا نينك ما أنت بل وحلينا ورنينك تغاتير تعاليم بحنا يعني إلى أهل ذكر جاء وضد مسلمين وأخو قرصونه هو ما تقدر قال حتى ما وحكوا شيء جاي معي وقفك خبرك قالني سيد الشريعة الإسلام وحي وحدتين ويا هني الثقة لو قرصونيا مركا من مسلم أو وأن رب العبادة إنه أذيك ما وحي كلتها إنه عبادة إنه كان جوجور ومحوك فايدة قال كبكتون لكن إنك مسلم كنوبرت علمك ولذلك فإذا وين الله ذات المسلمين إن علمك إبرتان أغاتير النقدان إنجير نقدان أو كيمي كذا إبرتان حيا لي مسائل إن كان قال إيه كالسوني ولا قاعدنا يا كو كله وحلا يا دت قال كود يفهم أنت يعني تتقدم بيان أما الرب الإسلام إن الواحد ما أرين إنساني وي إنسان على هذا الإسلام على هذا صدرت نفتن إلهي سبحانه وتعالى إن لبد باديو ما أنت شرع الإسلام وهي قبتها هدي أنا أركو قف نف قال وبط قارس دان أركو أنا وحالي دوني أنا أنقله وبدي أنقله حتى صونك أدا صومنا صونك إنا يفرو أن نف إنا بدبادي أصون أفرا اللي بدبادي وحولية قرآن وحولية فمن كان منكم مريض أو على سفر في عدة من أيام ورنيك حنون صنو صنوك إسكفر لليه ما حد عن نفسه على الدين هدي إلهي قرب إنه ضدك التكليف قربه ولذلك التكليف بلا يطاق محالوي wax ilaahay subxaanahu watacaala laa yukallifu lahu nafsan ilaa wus'aha marka inaad ka dhigatid inaad tiraahid aniga maya masaajidan tagaya dadka isku dhawaanaya aniga ma dhahin masaajida hala xiri kali ma dhahin haddii asbaab ay jiro dadka aasiya afgaani waxaa la sheegaya masaajida dadka mitr isku jiraan salaadu way tukanayaan laakiin waa la kala fogeeyey asbaabtin waa liimina cibaadada waa guteen laakiin inaad tiraahid masaajidka zaxma ahaan galaya inta badan muslimiinta halkaan ku dhimata aniga waxaan aqaanaa dadka cudurka ku dhaca inta badan waa maahay aan masaajida la xirna saasay tahay ingiriiska danan waxaan ku guulaysanay hay'adaha islaamka jooga inaan dhaqso u xirna masaajidada laakiin saasay tahay dadka had muslimiinta inta badan masaajida ay kasoo qaadeen marka inaan qofka muslimka uu yiraaho cudur u bareer naftiisa oo hadhowna uu yiraaho dadka cilmiga lahaa wax kama qaadanayo oo jaanibka iimaaniga ahaa faham lahaan u geyso uu yiraaho waxaan waa qoriin maya naftaada waa desho walidaalka waxaan leeyahay ninkii taqaatiirta taladooda qaadan waayo oo ku dhinta naftiisu dilay ninkii naftiisa dilana qiyaamaha wuxuu cadaab mutaysanaya nabi calayhi salaatu wasallam sheegay ninkaas wuxuu isku dilay ninkii sunca la siinaya qiyaamaha cadaabka uu siinaya ninkii meel iska soo tuuray asna meel baa laga soo tuuray jabal laga soo tuuray sida xadiis inoo sheegay saas daraadeed waxaan leenahay fas'alu ahla dhikri ha ka qaadanina dadka aan si waafajin karin cilmiga la weydiiya dhakhtarka hadduu yidhaa gabadhan ayada uurka leh waa la qalayaa waan yeelina soomaa waxaan dhahnaa maxaa dhacsaana u ogsoon wuxuu ogsoon yahay cunuga inuu soo bixi karin cunug wadna garaaciisa inuu u baaba'ayo say u diidan tahay marka haddii lagu leeyahay cudurkan saasaa la iskaga qaadaa saana la iskaga qaadaa inaad aamintid ciqaab gaalada lagu soo dejiye waay ma yaa ku yidhi ciqaab gaalada waa yaa ku yidhi aawo daliilkeedii marka inaad muhiimsantay ilaahay nacam ibtilaa waa imtixaan ilaahay addoommadiisa cunaa muslimkii gaalka la imtixaanaya khayr iyo shar la isku imtixaanaya laakiin inaad mar kasta asal waxaano ah aniga ay jeedaa sheekha ah afar jumco shan jumco ma tukanin maxaa dhacay waxaan ogsoonahay ilaahay subxaana watacaala inuu leeyahay laa yukallifu lahu nafsan ilaa wuscaha waxaan ogsoonahay inaan nafteeda aan taaluga aan ku ridin dadaa waxay samaynayaan guryahay ku tukanayaan xaafada inay isku wacdaan ay wuxuu ku leeyahay kaali jimcaha xaafada guryaha ku yidhi masaajidka waxaa loo xeeray in laysku yimaado
islaan wadaad xaafadda kala saaxiibka hadaa wacatay tira gurigayga salaatu wiilna ku tukanayna waa dimbawday odagaas adaa dishay haduu dhinto adiga dembiga qaadanayo adaa dishay guriga ku jira lagu yiri ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu jecel yahay yuriidu Allahu bikum al-yusra wala yuriidu bikum al-usra ilaahay man la jecla wax adag diinteena ma cusla mana adka laakiin adiga ay marka isku cusbaysid ayay kugu cuslaanaysaa marka waxaan ku soo gabagabaynayaa mar raba inaan waqtiga niga qaata inaad ku dadaashaan annaga oo dadka culimada maanta waxay culimo u ah dadka cilmiga yaqaana u ah annaga markaan rabno xugun inaan sameeyno fiqi ah oo dhakhtar qusayso waxaan ilaa dhakhtarka la weydiiyo gabadha markay soonka furayso ay tiraahdo soonka ma sheekh ma banaayahay inaan soonka ka tago waxaan leenahay nin dhakhtar ma ku yiri mas adaa darantay hadduu dhakhtar ku yiraahdo loo kalsoon waxaan leenahay soonka waa furaysaa maxaa dhahay asaga ayaa lagu dhisay xukunka haddii qofku uu yiraahdo anaa sooma maanta laakiin waa wareer waxaan leeyahay iska fur laakiin in wax takhayulaad la iska sameeyo oo la yiraahdo walidaalika ahlu dhirka maanta culimada cilmigan baratay qaasatan dadkeena muslimiinta sida doctorka khayr Allah siiyo sida wanaagsan noogu sharxay in la dhageysto oo la yiraahdo adeeg ayaa maanta ayaa arinta caalim ku ah talooyinkaaga qaadanaya wuxuu ka faa'iidaa mar inuu ummad wax gafiyo wuxuu ka faa'iidaa malaha inuu naf dilo bal nafam uu badbaadinaya ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baryay dadka inay fahamkaas oo kale yeeshaan oo jaanibka ka hortaga ah maxaa yeelay waa jaanib muhiim ah waxa lagu sheegayo cudurkan haddii lagu leeyahay faafidiisu dadku meel ku kulmaan weeye kulanka in la kala fogeeyo Soomaalina cajiib aan haysa dadka Soomaalida nacam iimaankooda waa fiican yahay laakiin iimaanka aan lahayn cilmiga aan lahayn mushkil uu leeyahay waa in qofka muslimka ah oo labada isla darada maxaa yeelay salaadina kama baaqanin bal guriyan ku tukana reeriyan la tujiya ilma carruurteena la tukato waxaan nicmo kale heli karnaa helan asa an takru shay wa khayru lakum waxa laga yaabaa inay ehelkii iyo usradii isku soo laabatay ee faa'iido u tahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala maalmahan yar ilaahay waxa ka bari cudurka inuu naga qaado laakiin maalmaha yar cudur daaha ma jira ilaahay subxaanahu wa ta'ala cudur daawo u keenay mal daawadan waa la heli doonaa nacam dadka wuxuu yiri wali wax lama hayo laakiin anagu waxaan aaminsanahay ma anzala Allahu daa illa anzala ma'ahu dawa alim man alim wa jahil man jahil sidoo nabiga noo sheegay wuxuu yiri ilaahay cudur ma soo dejiyo ila daawadiisa la socoto laakiin waa test ya socdo waa la imtixaanaya marka ilaahay naga dhigo ku testiga ku guuleysta oo ku imtixaankaas yar ku ilaahay ku liibaaniya maqlana talooyinka dadka ahlu cilmiga inoo soo jeedinaya oo dhaqaatiirta ah in la kala fogaado haddii aad dididna naftaada tahluku ku riday naftaada dishay ninka naftiisa dilin cadaab ayuu galaya wallahu a'lam insha Allah khayran nidajay barakallah جزاكم الله خيرا شيخ عثمان هذه aad baan kaaga mahadnaqaynaa sidii fiicneed aad u taataabatay qaybo kala duwan oo dhibaatooyinka cudurkan iyo saameynta ku leeyahay iyo sida mujtamacu inta badan ay u fasirtaan ama ay maaragtay runtii ay iyagu isaga dhaadhiciyaan waxyaabaha diinta la xiriira waxaad inoo sheegtay laakadoo kale wadamada qaarkood inay masaajidada ay sameeyeen laakiin ay sameeyeen salaadii ay sameynayaan laakiin waqtigii masaafadii la isku jirsan lahaa oo kale la sameeyey kasoo qaad qof xanuun qabo kale hadduu uu yimaado inkastoo masaafadii ay xoogaa isku jirta haddana masjidka marka lasoo galayo marka laga baxay iyo xataa inta loo tukanahayo ma keeni karto soo ma keeni karto dhibaato taas dhakhtar cabdisalaam xataa laftigiisa waa ka qayb qaadan karaa dooda waa inoo furan tahay laakiin waxaan ka fikirayay markaas tiri oo kale dadkaas hadduu qof xanuunka qabo kale oo isagoo is ogeyn sidoo dhakhtarka inoo sheegay waxaa laga yaabaa qofka isagoo cudurkii qaba haddana inuusan haysanin calaamadihii xanuunka uusan haysanin intii muddo ah marka hadduu marka dadkii kasoo qayb galo oosan sankiisa iyo wixiisana daboolnayn oo kale ma keeni kartaa marka in cudurkii qofka uu dadka kale u gudbiyo نعم أنا مركان له مساجد مسافة مثالنا وسوقات لكن وحكستو كله هردك يلا سميه وسنك ولا حرتي حتى مساجد قالوا بكل سوق قالوا وحبا لا بوفيا لكن إمكانيات كاسله وإمكانيات كاسلان كهذلك لكن إمكانيات توجرين صلاة ولا قلت يا مركز كوريا لو تكوني وصح وصح كسقد أسكو كلام وحنا أقولنا هذا UK ما شاء الله علماء رنتي آدي بي حل isaga saareen aniga hada magaalada Leicester oo kale aan ogahay yani way ku xiran yihiin guddi baa la sameeyay culimada masaajidada oo dhan ka dhaxeeya iyo oo ku xiran maaragtay isagana maaragtay muslimka maaragtay dadka aasida u qaabilsan guddiga u qaabilsan isagana ku xiran marka waa la iska warqabaa runtii aad bay marka haddaad arrintaas aad xogaa yara inoo iclaamin lahayd waxaa laga yaabaa wadamada kalena inaan waxyaabahaas ka jirno kale inay tusaale u noqon karto xataa ay ka faa'iideysan karaan ayaga
sida runtii UK oo kale ay aad maartay isugu xil saartay London oo kale oo ognahay inuu aad iyo aad mujtamaca Soomaalida ugu badan yahay asaga laftigiisa waxa laga yaabaa caqabadihiisa inay asaga laftigiisa iska jiraan dhinaca aaska dadkii waxay ka walwalsan yihiin qofkiisa iyo markinaysan aasin karin ama dadkii u tagi karin u soo tacsiin karin hadda bal arrintaas idan xoogaa inoo taabatid masalada su'aalo dhowrna waana laga weydiiyey xaqiiqatan mid ugu horeysa masalada oo ugu daran waxay tahay aaska dad muslimiina aasaya oo aaska waa fard kifaaya weeye sideedaba janaasadaba haddii xataa qaar ay ku tukadaan dadka kale way ka dhacaysaa salaada inkastoo qofku jecel yahay inuu qof dad badan ay ku tukadaan haddana waxaa bannaan qofka asoo gurigiisa jooga inuu salaad janaasa ugu tukado waxaa bannaan in Soomaaliya dad loogu diro oo la yiraaho hebel waa dhintay salaad janaasa loo tukado salaad al-ghaib ay sharciyada bannaysay ka annag inay ogeyd waxyaabahan oo kale inuu dhacayo qofka saas oo kale dad yar ku tukadaan in meel kale lagu tukan karo salaada ghaibka sidoo kale masalada in group la wada duugo waa bannaan tahay waa soo aroortay waa dadka waan ka wacyi gelinaa oo inay ka walwalin qof kasta camalkiisa la soo baxaya qiyaamaha shardi maaha god kaligiisa gala dada god gelina diyaarada iyo shil ku dhinto la arkin hilibkooda arkin marka taasna waa ka wacyi gelinaa in habkii u duugayeen wali hab wanaagsan weeye oo dadka in la wali waagii hore dhulka adkaa waa la isku saaraya dadka markaasaa ninka xaafid quraanka ninka kala halka kormaray la dhahay laakiin hadda waa la dhinac dhigay waa loo kala gooyey calaamad waa loo yeelay markii qabriga si wanaagsan u sameeyeen qoladaasna waa qola naga soo wacday waxaa jirta dad ku mashquulay inay meedka inay qaataan hooyooyin ka dardaarmaan waalidiin yiraaheen meedkeena waa la qaado waan u fadwoonay inay la qaadi karin meedka oo wasiyadooda markaan oo kale aan la fulin karin oo meeshii lagu duugo balse ay falli badan tahay qofka magaalada ku dhashay inuu ku dukanin nabiga calayhi salaatu wasalaam ninkii madiina lagu duugay uu ku yiri laytahu maata fi ghayri madiina meel kale inuu ku dhintaa ficneed qofka waxa fiican inuu magaaladu ku dhashay ma ahna magaalo kale uu lagu duuga aasa maxaa yeelay wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa loo tirinayaa intaas masaafo oo ajar ayaa loo tirinayaa maadaama uu magaaladiisa kasoo fogaaday waxaasoo dhan waxay ka mid yihiin dadka wacyigelinta oo dadka qalbiga loo dejinayo sidoo kale masaa'ilka kale oo muhiimka ah oo aan dadka u sheegno waxay tahay kaalmada dadka in la kaalmeeyo oo la isku tago meedkaas oo kale haddii ay dad insulation maadaama oo la sameeyey guryaha lagu xiran yahay dadka waayeelada in la xiriiro london waxyaabo badan la qabtay ilaahay subxaana watacaala miisaanka aanoo saaray insha allah inta qabato haddii aad baa mahadsan tahay sheekh cismaan waan ogahay maaragta runtii waqtigaaga qaaliga ah su'aal ma weydiin karaa sheekh yes soo dhawow cabdisamed dr cabdisamed soo dhawow fadiilatu sheekh waxaad taabateen jawaahir in ay isxilqaameen culimmadii Leicester London kuwa Birmingham waxaa laga yaabaa inaad wada maqasheen sheekh culimmada Soomaalida ka mid ah ee masaajidka Basiila ee Finland cod uu duubay oo wacyigelin ah marka rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyatihi waxaan aaminsanahay intaan ka arkay culimmada Soomaalida ee joogta Ingiriiska iyo intaan ka warqabo Finland iyo Sweden inay doorkooda ay ka soo baxeen maxaad kula talin lahayd culimmada Soomaalida ee dalkii jooga maxay kula tahay doorka ay leeyihiin waqtigan inay u qabtaan ummadda Soomaaliyeed maadaama rasuulku yiri kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyatihi ayna yihiin dadkii uu yiri rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxaad tihiin warasatul anbiya inay yihiin dadkii nabiga dhaxlay sallallahu alayhi wasallam maxaad kula talin lahayd culimmada Soomaaliyeed ee dalka jooga maxaad u malaynaysaa inay yihiin inay tahay doorkooda ay u qabanayaan waqtigan ummadda بارك الله فيك دكتور إلهي كبركي ودورك علماء ودور مهم يا إخواني دور مسألة عذر كان كلمة هنا مركز أمضى مجتمع وحي دور مهم يوجران وإلهنا ويدينا يبري دور كي توجيهها مسألة أنا قال مركز اعتمادنا وحن نريسي هذا كي يكون ترتبع إنه ويديان علماء مركز هو فعل كرد فعل وليه معايا الحكم وعليه لما أوجان كرو وعليه الحكم على شيء فرع عن تصوره قاعدة سبحانه قفك أنت وحم حكم كرو إلا مركه هو الله تصويري واحد تهاي مركز وحدي كرا وحن وبنايه ما بنانا مركز إن يدك عامة هذا القود إيه العلماء يدك دقاتير تأي لحريران أنقوان إننا يا علماء الصومالي مركز الجوكتو مركي كان عذر كان لو شرح ساعة هذا إنه شرح ذو كلا مركي أوجادان إن حكم كإساران إن أي تهاي إن كلف وجادو إن نفل بد باديو إن أي دور كود قاتان مشكلة علماء مسائل وحاجة اللي اسمه خلاف فكري مسائل اللي اسمه خلاف فكري ترى وكان ما مسائل اللي اسمه خلاف معها
maxaa yeelay naf ayaa la badbaadinaya waxaan ku waanaya marka inay iska dhigaan meel hadday group iyo waxba yihiinba ama meelo kale ay leeyihiin inay tan oo kale ku midoobaan ay yiraahaan war naftaan si loo badbaadi kara maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala in naftiisa la badbaadi waa qof nolol hal ninkii naf nooleeya waa asagoo intaasoo naf nooleeyey si aayadda qur-aanka man axyaha faqanama axyaa naasa jamiican marka waxaan ku baraarujinayaa inay la xiriiraan fatwada fardiga la dhaafo oo ah qof kasta maxaa yeelay sheekh kasta haddii gooni loo fatwada oo warsado wuxuu isaga la tahay ama wuxuu ku binaynayaa dhacda walidaalika inta badan waxaa laga yaabaa xataa dadka diidan dhahaya waxay ku bineeyeen tirada dhimashada fiiriyeen tirada dhimashada in qiyaas lagama qaadan karo shareecada waxaa laga hadlayaa falka uu gaarsiin karo cudurkan muxuu yahay hadduu hal qof ku dhiman karo dadka dhan waa inay is ilaaliyaan weye laakiin haddaan dhahno wallahi soomaaliya intaas kun wey 20 le maraysaa ama 4 maraysaa macnaha waxaa sahlan nafta 20 kaasaa sahlanay waxaan sahlanay 10 ka dhimatay bal dadka kale soo socdo ma naqaan marka waxaa takhtarka wuxuu noo sheegayaa dadkaas dhintay kaliya maahane waxay arrintii umaan kartaa dadka kale walidaalika waxaa arkaysaa markay qabuuraha aadayaan afka uma xirna asbaabta mala imaanayaan naftooda tahluku ku ridayaan marka culimmada waxaasoo kale inay ka waanayaan khaasatan waqtiyadan oo kale oo culimmada warkooda la dhegeysanaayo oo bil barkaysan ugu jiro inay dadka ay u sheegaan halista ay leedahay ayagoo weli tala ka qaadanayo arrinta takhaatiirta taas horta waan ku waaninaya doctor aniga su'aalaha laftigay inaan ku weydiin rabay oo London nagu soo naqnaqatay oo ahayd maydka ma laga qaadi karaa cudurka ma gudbin karaa Dr. Cabdisamed mana maqlaysaa waan ku maqlaa kolba inta uu qofku uu neefsanayo ama neefta ka soo baxayso dropletkaas ay ka soo baxayso uu gudbin karaa marka maadaama cudurku uu cusub yahay lama oga inta uu maydkan uu gudbin karo marka waxaan u malaynayaa inaad aragtay in dadka lagu xiro maxaa la yiraahdaa body bags lagu xiro aysan wixii ku jira aysan ka soo bixi karin maxaa la yiraahdaa markii la dhaqahayana dadka dhaqahaya loo xiro maxaa la yiraahdaa mask loo xiro gloves loo xiro oo sidii hore waagi hore dabcan marka dadka hore la dhaqi jiro gloves waa la xiran jiray mask loo xiro waxaan la yiraahdo maryahan la isku ilaaliyo inaysan wax ku soo gudbina loo geliyo marka lama oga inta uu gudbin karo waxay u badan tahay dabcan maydku markuu waqti badan uu sii joogo in chaniska uu gudbiyo inay yar tahay laakiin si looga hortago chaniskaas yar saa u sheegtay hal qof in dhibaato soo gaarto maadaama ay wax weyn tahay si looga hortago in maxaa la yiraahdaa dhaqitaankeedana si gaara loo dhaqo hadhowtina body bag lagu xiro marka waxaan u malaynayaa inaan ka jawaabo su-aashaada barakallahu fiik jazak aad baa u mahadsan tahay Dr. Cabdisamed su'aalaha nooga yimid dadka maaragtay oo nagala xiriiraya online-ka aan jeclaan lahaa inaan kuu soo gudbiyo Sheekh Cusmaan qofka wuxuu soo weydiiyey ducooyinkii adkaarta habboon ee la akhrisan karo cudurrada faafa qof kalena wuxuu soo gudbiyey su-aasha ah maxay dadku samayn karaan oo ku bedeli karaan yani cibaadooyinka ay ku bedeli karaan cibaadooyinka ay ku samayn jireen rabitaanka sida taraawiixda oo kale ay imaanayaan muxuu ah masjidka ama salaada jimco oo kale maxay ku bedeli karaan su-aasha saddexaadna waxa weeye maxaan samayn karnaa yani salaada janaasaha yani haddaanan inkastoo xoogaa aad maaragtay arrintaas aad taabatay laakiin haddii qofku uusan jooginin meeshii janaasada lagu tukanayay sidee bay samayn karaan ayaguna janaasada barakallahu fiik marka uu horeeyo ducooyinku way far badan yihiin ducooyinka uu asaas u wanaagsan waxa bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwa samiul 'alim oo xisn mu'min ku soo aroortay allahumma inni a'udhu bika min al-baras wal judan ducada wax kasto aad ku ducaysatid masalada kale oo ahayd su-aasha kale maxay ahayd igu soo celib su-aasha kale waxay ahayd maxay samayn karaan yani cibaadooyin ahaan muxuu qofku samayn karaa cibaadooyinka dadka waxa weeye aniga waxna hadda laga mamnuucay oo inta badan oo ragga khaasatan ay waxa weeye jamaacada weeye jamaacadana gurigan waa lagu oogi karaa ajirkeeda leedahay ajirka masaajidka oo kale ay leedahay marka waxaan ku talin lahaa in guriga jamaaca lagu sameeyo oo qof kasta meel gaar ah ama salootada ahaato mar kasta salaada isla tukadaan inta guriga ku jirta inay isla tukadaan hadday rag ay yihiin rag ay u badan yihiin oo qaangaar ana
حتى صلاة الجمعة وكتوكن كران قريب معايا للنبي عليه الصلاة والسلام وجعلت الأرض مسجدا مال كستا كوميونيتي شباب لو كذا marka salaada cadadkeeda 12 iyo shardi ma aha saddex qofood wixii ka badan salaada jumcaha guriga waa ku tukan karaan reerkaas degan ka hadlaya kama hadlaya in dad kale ay soo wacdaan maxay yeelay cudurka sababta masaajid lagu diiday waxay tahay dad oo meel kala duwada isku imaanaya marka inaad la diriska inaad wacdimaha laakiin reerka oo wiilal leh ayagana maalinta jumcaha hal qof oo istaago oo arkaanta jumcaha waa iska fududahay inuu qofka nabiga ku salli calayhi nabi ilaahi amaano nabiga calayhi salaam ku salliyo oo hatta Soomaali ku wacdiyo ama English ku wacdiyo ilaahi laga baqo oo fariisto hadan soo istaago mar labaad haddana uu ducada akhriyo waa tuujin karaa uu hadda jumcadaasna ayagana saas waa ku dhacaysaa waxay ka mid tahay nawaasilta lagu baneeyay in guryaha lagu tukado waxaa kale ayaa ku waaninaya qofka cudurka markuu badan yahay in la badiyaa nabiga calayhi salaatu wasalaam salligiisa wardiga salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam in la badiyaa iyo istighfaarta labadaas wuxuu noo sheegay ilaahay inuu qofka badiyaa inuu dhibka ka qaadayo ilaahay wuxuu leeyahay wama kunna mucadhibiina وأنت فيهم معناها أن إلهي سبحانه وتعالى عليه النبي محمد أنت أدي جوكتي أنا مع عذابين وعذاب أم عذرها هذا عذاب عذر نفسي عذاب ونقرأ عليه مركع علماء وحكوا فسرين صادوا ما دام النبي هذا نجت جي ومديس وحياها وأمني جوها وحكم ذا إذا إن نصلي جيس بديان وأسقوا لجوج إلى متى النبي عليه الصلاة والسلام أنت يصلينا يا إلهي ابن تصاير إيه وما كنا معذبين هم يستغفرون آياتك إله مع عذاب تكون استغفار هاي لا بس نبضي استغفارته يصلي النبي عليه الصلاة والسلام وحيابها إلهي قربة يقال كمتها سيدو كلا وحيابها قربة إلهي قال وحكمتها صدقة إن نبضيه ودك هاد المساكين تا إفطار وصائم دك وحلو درك على مداس يبعث سن وإلهي سبحانه وتعالى لفته عرف لو بقاي وقارقود نجارب إن أيضا إفطار كاس لو درو وحكمتها وحيابها إلهي كشف هم ينوي قال كرب سؤال شيء حكته هي صلاة جنازة هي نعم صلاة جنازة إذا فرض كفاية جماعة ولو توكن كرا كلا كلية لو توكن كرا أنا هذا ضد بدن صاحب أو أنت كقيب قلي واي إن جنازة جورجي أنا جوا أو توكذي أو صلاة القائمة أو توكذي أحبها مركا قفك كلية أو توكن كرا أو كلية هذا رتي أن هالقف أفر قفوت أو نيسن كرتا أم صدق قفوت وقرابة ده أي هالمر هال صلاة توكن كرتا ما إن متكسر صلاة توكن يسد هذا عرضت إذا ما هذا أسوس صفي كرتا دي كرتا جماعة هنا كتوكنينا كلي هنا وتوكنينا وحكمتها يسر الدين تاني لا هاي إنه قفك مركز تأجر وهيري كرا معايا لصلاة الجنازة أدنى أجر يقوتها أيضا أجر قفك ميت كان أجر يقوتها نعم سؤال كله هذا صوغ شيء أنا سؤال موجود بس سوى الشيخ عثمان هذه هذا ما سنتهاي وحوي أن جنازة يوليكو شغل هذا هي وحي ليه دتكو ما كنت كنكرنا محوها online lakada kale dadka hadda dad waa aragtay ehelkii oo dhan waxay kala joogaan adduunka dacaladiisa waxyaabihii aan dagaalada ka dhaxalnay ayay ka mid tahay marka dadkii oo dhan oo adduunka dacaladiisa kala jooga misla tukan karaan hal mar oo live stream lagu sameyn karaa ama Twitterka ama Facebooka ayay weydiinayaan oo mas'uula tukan karnaa anagoo isku wada xiran yani مسألة مسألة علماء منازلة وهي بعض علماء أي بنيين إن ساسو كلو تكرر لك أنا مركز تحاين إلى أرتاس معايا وحكيني سا تقديمك إمامك إمامك أنتو كاجرا أنتو كاجرا مركو عافي عن دام لو تكون كلبة إن لسكم مشغولين إن جماعة لو تكذو مقالة كستو أم قلق كست ماشي جوك تقولي جوك تقارها وتكتو أونلاين كشرد معه هذه أبا ما سنتهي نش عثمان هدي وقتي ku saamaxay waana la sii joog kartaa dhutadii gadaasha waqtiga barnaamijku ku dhamaado su'aalaha jiraan dadku iyagana aan sii ururinayna hadii kalena aadan waqtigu ku saamaxaynin waanu ku fasaxaynaa insha Allah laakiin aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa waqtiga qaaliga aan soo siisay waxaan u gudbaynaa hadda qof kale inagu xiga maanta waxa weeyaan waa Caashe Raaga weeyaan runtii gabar runtii aad iyo aad door uga qaadatay ururka la yiraahdo Dream Chaser Youth Club oo Birmingham ka jira oo runtii dhalinyarada maaragtay u istaagay in ayagu maaragtay ay wax la qabtaan oo barnaamijyo u sameeyaan hadeertaan u istaagtay in ay maaragtay u sameeyaan dadkii uu saameynta uu ku sameeyay cudurkani oo ayagu aan guryahooda ka soo bixi karinin inay maaragtay u sameeyaan waxyaabaha mucaawanada u baahan yihiin Caasho aad baan kaaga mahadnaqaynaa waqtiga qaliga ah ee soo siisay marka hadda adigu marka hore xogaa yar aad ismaarkno dadka isbartid dabadna aad maaragtay aad inooga warrantid waxyaabaha aad qabataan iyo waxyaabaha aad ka samaystaan barnaamijkeena soo dhaw maad maqlaysa marka ugu horeysa waa ku maqlayaa ha si fiican ma sha Allah assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaantiina magacaygu waa Caashe Cali Raage
hooyo Soomaali baan ahay aan iga raali ahaada af Soomaaligayga ma waan si fiican uma wanaagsana so I'm trying my best inshallah to express myself inshallah waxaan deganahay magaalada Birmingham gaar ahaan meel la yiraahdo Bosley Green and organizationka aan ka qayb galay waxa la yiraahdaa Dream Chaser Youth Club professional kayga waxaan ahay football coach and caruurtan ka caawina kubadda iyo waxaan haysanaa imikadan youth club oo last year furanay runtii sanadka dhan waxaan hooyooyin badan baan la shaqaynay oo English class haday tahay advice and guidance haday tahay caawitaanka dhinaca booliiska haday tahay dhinaca maxaa la yiraahdaa schoolka oo hooyooyinka ka caawino laakiin COVID-19 markay dhacday wax walba way kala daadatay runtii inaga ourself waxaan meeno soo marin waligeen ma garanaynin waxaan sameyno waan soo adeegtay dadka waxaan ku yiri soo adeegta wala soo adeegtay laakiin anigina gudaha isku xiray laakiin after 1 week waa la soo wacay Aasha intaan anuma haysto dad baa Norway ka soo guuray aan wali isdhiibin oo wali waxba lagu bilaabin runtii aan isku qalqalay wax yar maadaama waxaan I don't know how it goes but waxaan islaha waan tijaabinaya sidaan u bilaabi doono waxaan marka group 1 haysana WhatsApp groupkii baan hooyooyinkii aan ka dalbaday caawitaan iyo inaan shukri la khayr badan ha siiyo from Dairy Foundation iyo Avicina Schools hablahaas ayaan groupka ka wada hadalnay waxaan sidaan u caawin karayna then waxaan bilaabnay inaan adeeg intaan lacagtii baa donationka horta bilowday donationkii markay bilowday waxaan bilaabnay inaan cuntada u soo gadno reerkii aan albaabka u sii dhigno maadaama lacag haysanin oo waxba haysan caruur yar yarna guriga ku nool yihiin marka sidii ayaan u bilaabnay ilaa imikadan oo waxaan gaan ilaa 30 reer ayaan caawinayna so far 30 ka reerna waxay yihiin waayeelka ku jira waxa ku jira hooyooyinka oo single motherka oo banaanka u soo bixi kari waan marka waxay noqotay qayb kala 3 qaybood bay noqotay qayb ugu horeysa waxay tahay waa hooyooyinkii oo wadan kale ka soo guuray oo waxba haysanin qaybna waxay tahay islaamihii oo waayeelka oo iyama garanay sida lacagta kaashka u soo bixin karayaan qaybna waxay tahay dad oo lacagtooda haysanin laakiin because of the risk health risk ay leeyihiin banaanka ma soo bixi karayaan marka online keena ku soo shubayaan waan u soo gadaynaa albaabkan u sii dhigayna marka inta kalena waxay noqotaa dad baa jirta oo volunteer ilaahay khayr ha siiyo masaajidka Al-Nur iyaguna waxay soo dirteen volunteer imikadan ayay waxay raadeen maxaan ka caawin karayna marka the more sidaan u sii sameynayno the more volunteer we have inamada ila shaqeeyana ilaahay khayr badan ha siiyaan waqtigooda iyo iyaguna reer bay leeyihiin laakiin they take all the time inay shoppingka and wad arkaysan queue-ga itala shopping is the long queue but alhamdulillah at the end of the day dadkii wixii aan gaarsiin karayna waan gaarsiinayna ilaahay awoodiisa ma sha Allah Aasha aad baa u mahadsantahay ilaahay jaxsanaad badan ka siiyo dadaalkaaga adiga iyo inta kale oo ku caawinayso isku mashquulsan tihiin maxay caqabadaha ugu badan oo idinka hor yimid yani challenges ka idinka hor yimid inta hadda hawshan ku mashquulsanay the challenges horta one challenge anigu I find it very difficult is to standing on the long time that and then shopping ka markaad gashi waxaad helaysa laba wax baad helaysa adigu intaad soo taagnaatay reer intaasoo reer baa ku sugaya meel baad supermarketka hal supermarket aad gelaysa laba shay baad helaysa labada shay haddana ina supermarket kala gashi it's time consuming although hatta in dad badan joogtiin wixii aad rabti ma helaysi mida kalena the donation there's no money in the account you feel like dadkii soo wacayaan waxa korana waxbaan ka baahanay adigana ma oran karaysid there's no money in the account because you promised them something you're going to do it but and then waxba ma haysati is kind of like a really difficult it's kind of you throwing things on people's face and
it is really difficult, but alhamdulillah we're gonna go overcome it inshallah. ما شاء الله. سؤال ayaa dadka ay soo weydiinayaan waxa laga yaabaa dadka hadda muxuu ahaa guryaha de ku xiran ilmihii guryaha joogaan iskuulaadkii waa xiran yihiin marka caqabado waaweyn ayay waalidiin intooda badan ay runtii ay la soo gudboonaatay marka su'aasha ay soo weydiiyeen waxa kamid ah sidee bay waalidiinta ama hooyooyinka ay u caawin karaan carruurtooda ayaga markna waxbarashada guriga marka inta ay joogaan hadda iskuulaadku xiran yihiin iyo midda kale iyada laftiga la xiriirta waxa waaye ma u malaynaysaa iskuulaadku inay sameynayaan yani intii tabartooda dadaalkooda ah sidii markana u caawin lahayn carruurta intay guriga joogaan waxbarashada ay u soo gudbinayaan gaar ahaan dhinaca marka la fiiriyo waxyaabaha la dhaho shaqo guri Soomaaliga loo dhaho laakiin Englishka homework caawinaad markana ku filan ma ka helaan iskuulaadka so far inagu imika Birmingham magaalada Birmingham waxa horta groupkeena hadaan ka hadalno we trying to introduce inaan schoolkaagana wax ka cawsan karaysa homework carruurtaada waxa jirta online Google kaaska classroom kaaska isaguna oo schoolka offer gareeyeen but I don't think in hooyooyin Soomaali oo markii ugu horeysay language-ka dib u ahaa inay soo sameyn karayaan it's going to be a very difficult and midda kale waa challenging weeyaan ilmihii adigii af Ingiriisi si fiican u garanaynin oo ilmihii ku leedahay wax ku baro I feel like hooyooyinka Soomaalida iyo abooyinka waalidka Soomaalida dhammaantoodaba it's very difficult to homeschooling at home midda kale I think inay garanaynin xuquuqdooda xitaa kuwa lunch box-ka haysta schoolka ka cunaya inay free lunch box-ku schoolku yaalo oo ka soo qaadan karayaan oo mise voucher-ka la siin karayo ku soo adeegan karayaan badankooda hooyooyinka ma garanayaan I think so there's a kind of because of the language barrier waxaas ma soo raaraasano runtii waxaas Soomaali adaan ahay waxaan rabnaa un wixiina horjeeda un baan aragnaa inta kale we don't come out of our way to do something different dabcan waalidiintii laftooda kala qoqobayeen oo iskuma gudbi karaan oo yani caawinaad iyaga laftigooda isma siin karaan laakiin dhinaca iskuulaadka do you think iskuulaadka inay caawinaad ay siinayaan waalidiinta batooyinkaas haystaan caqabadahaas and if I speak on behalf of myself anigu horta hadaan nafteeda ka hadlayo anigu schoolka way soo gacaan haddii noqoto homework waa ka soo qaata I don't think hooyo walba inay waxaas laga helayo chance because I requested it aniga dalbaday aniga ka soo qaaday password-kii iyo email-kii laga rabo aniga schoolka tagay laakiin badankooda hooyooyinka kale I don't think they know intii waraaq lagu soo dhiibay mooyaane oo intii la isku gudbiyay inay waxaas jirto waxaan dareemayaa weli they are parents are struggling to homeschooling the kids maxay kula tahay laakadoo kale organisationkiinoo kale hadda familiyaashaas aad caawinaysaan qoysaskaas dhinaca waad sheegtay dhaqaalahoo kale qoysas waxaa jira magaalada ama waddanka ku cusub oo weli maarkano dhaqaalahooda uu xadidan yahay laakiin maxay tahay is leedahay yani idinka ururkiinoo kale yani aad maaragtay aad ka caawin kartaan oo kale qoysaskaas oo kale yani ramadaanka oo kale waxa laga yaabaa hadda ramadaanka oo kale inuu asaguna maaragtay la yimaado hawshiisa waa iska garanaynaa ramadaanku aad bay dadku maaragtay runtii mashquul u noqdaan gaar ahaan cunto karinta iyo waxyaabahaas iyo dadka afur diyaarinta markay tahay marka muxuu marka organizationkiinu kula talin lahaayoo kale yani bisha ramadaanka qoysaska maaragno aad caawisaan horta bisha ramadaanka waa bisha khayrka ugu badan weeyaan waa bisha khayraad weeyaan dad badanna waa markay sadaqa badan baxsadaan waa marka xoogooda iyo maalkooda ay sadaqaystaan weeyaan marka waxaan nafteyda iyo nafta ummadda kale aan u sheegaya inay xasuustaan qofka guriga ku xiran haddaad adeega soo samaysatay qof kalena soo xasuusto haddaa wax ugu dari karaysa xitaa centerka inaguna ugu keemise ugu gee meeshaad qofkaad garanayso u baahan kolleyba waa is ognahay Soomaali maaha dad wadda iska jiifa waa dad oo maaragtay is garanayna halkeena qof gurigii keligii degan waa la garanayna keligii degan yahay inuu waxba haysanin waa dad isku xiran baanahay
marka isku xirnaataasayt waa inaad xasuusatay markaad adeega soo samaynaysa xasuuso deriskaaga mise qofka u baahan aad garanaysaa inaad qofkaasna caawisi insha allah maxaa is leedahay oo kale nada qoysaskan oo kale bisha ramadaan caqabadaha yani ugu badan ay noqon kartaa ama challengeska ugu badan oo ay soo wajihi karaa iyaga qoysaskaasito maxaad u malaynaysaa ku celi su'aaltaada laakiin hadda qoysaskan hadda aad caawisaan adinka yani bisha ramadaan dhibaatooyinka ugu badan oo iyaga soo wajahaya aad is leedahay maxay tahay horta dhibaatada ugu badan aniga telefonka markay soo dhaco waa panic iyagoo oo moodayaan waxaan inay ka bixi doonaan bacda ramadaan intay wari gaarin ayaa ramadaanka ugu soo gashay iyagoo guriyaasha wax yaryar lagu ku keen because waxaan keenoba I don't think waxaad u baahan tahay dhan inay kuu dhammaystirayso waa wax yara goob markaas waxaan arkayaa mar walba panic baa ku dhacay dadkii ma garanayaan alaabtii ramadaankii wixii lagu baahan yahay oo waad garanaysa waa soo adeegana run ahaan Soomaali markaan ramadaanku noo imaado wixii aad u heli kareenin wixii aad rabtay panic badan baa ku dhacay dadkii gaar ahaan kuwa maaragtay qoysaska hadda ama waxaa laga yaabaa shaqooyinkoodii inay ka joogsadeen ay shaqaynayeen ama waxaa laga yaabaa muxuu ahaa in uu maaragtay dhaqaalihii uu ku yaraaday saa adiga sheegaysa oo kale gaar ahaan dadkii dee awl hore xataa u deganaayo maaragtay shaqooyinkii maaragtay ka istaageen oo kale caruur yararna haysta ama caruur tiro badan oo kala haysta oo dhaqaalahoodii uu yaraaday maxaa adiga marka talooyin usoo jeedin lahayd waalidiintaas oo kale iyo ama caawinaad kale oo ay raadsan karaan ma jirta hadda adinkoo kale waxaad muxuu ah dabcan wad caawinaysaan oo dee intii tabartiina laakiin caawinaado kale oo ay raadsan karaan oo adinku aad kula talin lahaydeen ma jirtaa waxaa jirta inamo oo iyagu isxilxaamiyeen ay rabaan inay caawiyaan dadkii university credit ku jira iyo most of the horta waalidka waxay ku jiraan self employed bay ku jiraan marka iyaguna waxay group ay samaysteen familiga caawinayaan linkiga waan kuu soo diri doonaa insha allah inankaasna isagu wuxuu ka caawinaya dadka waa businesska iyo employment self employmentka dadka ku jira iyo universal creditka dadka ku jira ayuu caawinaya midda kale waxaad ogaata dad badan waxay ahaayeen way iska shaqaysanayeen caadiga dawladana waxba kamay qaadan jirin marka dadkaasa ugu liita maanta maadaama lagu yiri gurigii fariiso waxbana gacanta kuma haystaan intay university credit dalbanayaan is gonna take time insha allah marka dadkaasna laga warhayo weeyaan dadkaas is more important we need to as a community ma aragtay inaan dadkaas sii raadno because Soomaalina way aamusayaan dhibtooda way la aamusayaan ma sheeganayaan dhibtooda way la aamusayaan inaad aamustaan ma aha because dawladda intay soo gaarayso waqti badan bay qaadanaysaa marka waxa imika meel walba aad arkaysa community baa dad caawinaysa marka reach out hadal ha aamusin dhibaatadaada hala aamusin at least waa lagu garanaya dad baa lagu caawinaya telefonkeyga you can call aniga dad baan ku gudbin karaya oo waxaad rabto laga caawin karaya insha allah mise inagu haddaan anigu xalin karayana waan samayn karaya insha allah gaar ahaan hadda tala bixinta oo kale universal creditka waa fahmi karaa oo wixii oo dhan waxay hadda noqdeen muxuu ahaa online-ka marka internet-kaasa lagu dalbanaya waxaan ognahay inta badan dee saa sheegtay Soomaalidu yani isticmaalka internet-ka waxa laga yaabaa dadka waaweyn inay markna runtii ku adag tahay hadirtaana yani hay'adihii ay u tagi jireen oo kale oo tala bixinta oo caawin jiray oo kaleena xafiisadooda inaysan tagi karinin marka yani dhinacaas hadoo kale waa arrin maaragtay anaga hadda Leicester oo kale waa saas oo kale weeyaano organizationkeena hadda Somali Development Service oo kale waxaanu ka sameynaa telefoonka ama emailkaanu dadka ku caawinaa maxaa taloo siin lahayd lakada ururkiina oo kale runtii yani waa talaabo weyn oo lagu daydo oo maaragtay in adigu adoo hooyo aad isxilqaantid inaad maaragna cuntooyin aad intaa usoo iibisid aad dadkii guryahooda hurtooda u dhigtid ood u geysid runtii tusaale weyn oo lagu daydo weeyaan isla mar ahaantaasna muujinaya yani dadkeenu sida ay isku caawinayaan dadka caawinaysa horta kulligood Soomaali miya ah mise dad kale ku jira midda kale maxaa oo kale oo yani talaha u jeedin lahayd maaragtay Soomaalida kale oo UK iyadana dhinacyada magaalooyinka kale ku nool oo ay ka baran karaan maaragtay khibradaada
ما شاء الله horta aad baad ugu mahadsantahay su'aalkaas runtii waxaan caawinaynaa markaan ugu bilaabnay waxay ahayd Soomaali un bay ahayd runtii dadka isoo wacay markii ugu horreysay waxay ahayd Soomaali laakiin sidaan u socono imikadan waxaa gaadhay heer oo Carab oo sariir jiifa iyaguna oo waxba iyaguna samayn karaynin oo telefonkeyga social media ka heleen oo isoo wacayaan oo leeyihiin haddaan naga caawin karayso waxaas so waa intaa weeyaan markaas laakiin badankooda 95% waa Soomaali weeyaan oo only 5% oo dad kale weeyaan maxaa kula talin lahayd Soomaaliyada kale oo magaalooyin kale joogo kale maxay ka faa'iideysan karaan oo kale khibradda what can they learn from your experience for some they can learn from it's just basically it's just a common sense weeyaan adigu haddaad tahay organization and you are running the community you're running I'm a football call but I have to come out of my field and do something that I feel like is a common sense for me to do it marka waa inaad kacdaan weeya ma ahayna laydin yeero ma ahayna la yiraahdo and you have to be a role model and a real example for your community and for you to become a role model and a real model and a real example for the community you need to show action ki haddaad muujinayni oo leedahay aniga hadhowto marka waxay dhamaateena aad isku hor keenaysa dadka wajigaad leedahay as a community to become in front of people when you didn't help anybody when you're in lockdown when the difficult time at this because I don't think in nolosheeda namari doonta waxaan oo kale but at this difficult time you can clearly do something for your community waxbaa samayn karaysa waad caawin karaysa hadday noqoto xitaa ma bixi karaysa you have health issue only one phone call away waad waci karaysa talo iyo advice baad siin karaysa xoogaad waxaad haysatay your talent whatever you have haddaad wadaad tahay counseling because imikadan mental health is gonna start kicking in now especially with the youth iyo hooyooyinka ilmihii caruur badan waad ogtahay Soomaalina caruur badan leenahay iyo gurigii oo isku buuqsan oo aabi iyo hooyo hal meel wada joogo banaankii u bixin so your job is to offer them any help they can be able to have inshallah adiga hadda kale caqabadaha ka hor yimid oo kale waad qaar baad ka soo hadashay laakiin yani inta dadkaas aad caawinaysay yani caqabado kale oo adiga ka hor yimid ama dadka ku dhibsanayaan ama diidayaan caawinaada laftigeeda aan sidii adiga aad ugu gudbinaysay maybe aan u rabinin ama si kale u rabo ma jiraan way jiraan horta dad dhibsan oo lagu sheegay qofkaas dhibsan marka albaabka u degtina oo iyagu xanaaqaya maxaa la igu keenay alaabtaneeto anigu ma baahana runtiina way u baahan yihiin laakiin because of the Somali pride way xishoonayaan waxay leeyihiin oo anigu maxaa la igu keenay hada qofkii it's just small thing anigu kuma garanayo waxa tahay anigu waa la isoo sheegay inaad u baahan tahay addresskaagu baa la siiyay albaabkan ku dhigay waxa tahayna ilaahay wadada madmarti ma ku weydiinayo never in my life maaragtay ma ku sheegayo inaan ku caawiyo maalin ma ku weydiinayo xitaa because aan waxaan ahay maalinta adii baahneed waan joogay meesha saas ay muhiimsan maaha wax kale masha Allah laakiin hadda kale hooyooyin waxa jiraan yani kaligood nool oo caruurta kaligood ku ah oo yani aan la joogin aabihi la jooginin ama waalidiin ayaga xataa aan caawin karin ayaga caruurtoodii aan caawin karin runtii gaar ahaan waliba waxbarashada maaragtay online ka soo adiga kale yani nasiib baa leedahay luqadii baa taqaana iskuulaadkii baa la xiriirtay yani caruurtaada saad u caawin lahayd laakiin waalidiinta aan taas awoodi karinin oo xataa haddii caawinaadii iskuulka usoo diro ilmihii aan ka caawin karinin yani waxyaabihii internetka iyo computerka iyo waxyaabahaasayto maxaad kula talin lahayd mase jiraa wax caawinaad oo kale oo ama dad kale oo Soomaaliya oo waxyaabahaasi ka caawin karaan way jiraan dad kale oo inamo soo baxeen iyaguna caawinayaan oo mostly laakiin anigu intay soo waceen aan make sure inay waxay igu soo waceen inaan ka caawiyo inaan qof kale u dirin horta runtii inaan u sameeyo waxay rabaan so most of the time aniga haddaan busy ahay malad adeegan ku jiro oo kale aan qof kale u gudbiyo mooyaane laakiin awoodeyda waan gudbiyo inamo way jiraan oo imikadan iyaguna soo xilqaabeen
ay rabaan inay community caawiyaan dhalinyaro badan baa soo baxay iyaguna ay dadka rabaan inay caawiyaan marka there is help up there is sidaad u heli lahayd weeyaan sidaad u heli lahayd maasha allah yani waxaan ka baranaynaa oon ka faa'iidaysanaynaa taas inay tahay yani waxaa jira caawinaad badan baa jirta runtii yani waddanka gudihiisa magaalooyinka dad badan oo sidaadoo kale isxilqaamay oo runtii shaqooyin badan dadka u qabanaya jira jaaliyadaha laakiin dadku waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inaysan ka warqabinin sidee bay marka ku ogaan karaan caawinaadaadoo kale dadka muxuu ahaa aan ka warqabinin caawinad noocaas kale jirto ha okay hadda inaguna rabo telefonkeyga telefonkeyga waan dhigi karaya hadhowto the link below insha allah iyo adreeskeeda xafiiskeena meeshuu ku yaala cadaam imikadan adeegan soo samayno aan centerka dhigno dadkii volunteerka imanaya oo cuntadii guraya oo cuntadii dadka u geynaya alxamdulilah sofa marka mar walba xafiiskan jooga intaan dadka cuntada u dhiibdhiibaya hageeyaan taas waa kow ka labaad telefonkeyga laysoo waci karaya habeen iyo dharaar hadday noqoto xitaa 2 in the morning hadday tahay isoo waca haddaa wax u baahan tahay magaalada Birmingham haddaad degan tahay waana magaalada Birmingham ka hadlayo ana kasoo hadlayo hadday tahay I mean I'm here maaragtay as a community member as a sister as a mom maaragtay waxaad iga baahan tahay insha Allah I'm here to help insha Allah aad baa u mahadsan tahay mar kale waxaan jeclaan lahaa inaan maaragtay kaaga mahadnaqo caasha sidii sharafta lahayd oo noogala soo qabtay barnaamijkan iyo caawinaada aad u furinaysid maaragtay ummadda Soomaaliyeed iyo dadka kaleba oo maaragtay ku dhibaataysan cudurkan saameyntiisa aad baan kaaga mahadcelinayaa jazakumullahu khayran waxaan jeclaan lahaa markaan su'aal inooga timid muxuu ahaa dadka khadka internetka nagala socda Dr. Cabdisamed haddaad maqlaysid waxay maaragtay dadku ay weydiinayaan runtii maxay kaloo samayn karaan yani oo dadaal ah oo gacmo dhaq aan ahayn dadku ka soo qaadoo kale inay maaragtay ay cuntooyinka ay soo gataan oo kale iyo waxyaabahaas oo kale ama waxyaabaha bannaanka ay ka keensadaan in ay maaragtay ay ku dhaqaan waxyaabaha anti maaragtay bacterialka oo kale maxay samayn karaan oo dadaal oo siyaada aan ka ahayn maxaa gacmo dhaq inta uu ku noolaan karo viruska bacaha wax la isku raacsan yahay ma aha laakiin waxa la dhahaa waxay ku xiran tahay dabcan surface-ka ama meesha la dhigayo waxay kaloo ku xiran tahay waxaan u malaynaa inay ku xirnaanayso su'aashii uu fadiilada sheekh usuli uu weydiiyey waxay ku xirnaanaysaa kulaylka meeshaas ka jira marka keliya oo kulaylka la yiraahdo muhiimad buu leeyahay waa markaas meelaha kulul markaad joogtid surface-kana hadduu adeeg yahay inta uu ku noolaanayo way ka yaraanaysaa marka anugu kuma taliyeen antibacterial in cunto lagu dhaqo sababtoo ah cuntadaas haddaad dhow cunaysaa marka cunto suntaas antibacterial ku jirta ayaa dhibaato kuu keeni karta jirkaaga u keeni karta ama afka ha noqoto ama xataa sambabada noqon karta marka taa kuma taliyeen dabcan bacdi lagu keenay baad ka bedeli kartaa bac kalead ku bedeli kartaa xogaa waqti baad siin kartaa kabacdi waqtigaas ayaad isticmaalaysaa cuntada lagu keenay waxaa falaxalka kadib waxaa hadda ayada waxyaalaha aad iyo aad maxaa la yidhaahdaa laga doodo waxaa ka mida in mask qofku inuu gashto markuu bannaanka aadayo isagoon xataa cudurkii qabin in ay faa'iido leedahay dalalka maxaa la yidhaahdaa Asia oo uu kasoo bilowday aad ayay u isticmaalaan Maraykanka nimanka la xiriira cudurrada ayagu laftirkoodu waxay yiraahdeen qofka waxaan kula talinaynaa hadduu bannaanka u baxayo inuu mask gashto marka taasna waa la samayn karaa laakiin dabcan waad aragtay ingiriisku waxay sameeyeen maaha dadka conservative ah laakiin taasna dad ku taliya waa jiraan qofku uu samayn karo wuxuu samayn karaa qofku inuu dabcan haddaad lugeynaysid jidka aad maraysid hadduu qof aad kaasoo horbuuxo inaad jidka dhan kale u goysid oo aad iska ilaalisid qofkii inaad in maxaa la yidhahdaa 2 mitir 3 mitir inaad ka badan inaad isku jirsan talooyinkaas guud ayaa la sameeyaa dabcan waana qofkii aan qabin sida uu iskaga ilaalin karo su-aasha ugu dambaysa ku weydiin lahaa Dr. Cabdisamed waxa weeyaan marar qaarkood internetka waxaa la soo geliyaa dad waxay la xiriirtaa cirbadihii maaragtay adhaysana dadka maaragtay dhiig u xinjiroobin cirbadaha lagu duraa
qofku hadduu muddo uu xogaa cisbitaalka ku jiro waxyaabo maaragtay internetka la soo geliyay waxay ka mid ahayd maaragtay qof isagoo familigiisa la soo xiriiraya dhahaya yani cirbad baa ii haystaa cirbad baa iigu midaya dadkuna ay u qaateen inuu yahay cirbad sun ah una qaateen qofkii inuu dhintay oo cirbadaas intuu dhintay ay u qaadanteen inuu cirbadaas u dhintay so cirbadaha dadka markay tagaan la siiyo oo kale iyo dadka waxyaabahaas oo kale aaminsan ama faafinaya maxaad ka oran lahayd horta cirbada xinjirowgu waa cirbad yar waa sawirkii waan sawirka ma soo saaraa meesha si dadku u arkaan ما قان منطقني وقشها شارنا هكان كسميو ولا أركرها سمها أوكي marka cirbadu waxay u egtahay waa cirbadaas dhexe weeye waa cirbad aad iyo aad khafiif u ah oo u eg cirbada qofka sokorta qaba lagu duro badanaa waxa looga duraa qofka caloosha dhanka maxaa la yiraahdaa adigu xudunta geesaheeda ayaa looga duraa muhiimaddu ay leedahay cirbadaas waxa weeye qofka inta uu isbitaalka jiifo inuusan dhiiggiisu uusan xinjiroobin haddii uu dhiigga xinjiroobo uu sanbabada u gudbo halista uu qofkaas naftiisa ay gelayso inuu dhinto ayaa kor u kacda marka waa isticmaalnaa bal qofka covid qaba waxaa laga yaabaa badanaa ma aragtaa meesha inay 40 milligram ku qoran tahay in labalaab la siiyo mararka qaarkood ka badan la siiyo si looga hortago inuu xinjiroobo cirbadaha kaloo la siiyo waxaa ka mid ah faleebada hadda midkaan yarkaa u jeedid waxa weeye faleeba ay ku jirto antibiotic ay ku jirto qofkii haddii ay ku dhacdo infection oo bacteria la xiriirta oo marmarka qaarkood dhiigga laga arko waxaa laga yaabaa in faleebada lagu duro mararka qaarkoodna qofka hadday nafaqada ku yar tahay ama uusan wax badan cunin ama aan maxaa la yidhahdaa keliyihiisa ay dhibaato gaarto waxaa laga yaabaa in la siiyo faleebo nafaqo ama faleebo ay ku jirto maxaa la yidhahdaa biyaha cusbada leh oo intravenous fluid la yidhaahdo marka taasna waxaa laga yaabaa in lagu duro qof dhakhtar ah oon maxaa la yidhahdaa aan aqaano oo ku fakerayo qof inuu dilo ma jiro wuxuu ka helahaya ma jirto midda kale qofka dhakhtarka ama nurska qof walba qofku waxay siiso waa qoran yihiin marka qofkii uu dhibaato gaarsiiyo waxa weeye dabagal baa lagu sameynaya isagaa lasoo qabanayaa midda su-aashaas in dhakhaatiirta dad ku durahayaan haddii tahay su-aashaas su-aal ka imaanaysa ingiriiska oo kale maalan 20% dadka NHS ka shaqeeya NHS oo dhan oo dhakhaatiir iyo nurse hataa mandeeqo meesha ugu jirta ay ku jirto waxa weeye dad ajnabi ah weeye haddii la yiraahdo dhakhaatiirta ingiriiska shaqeysa weliba isbitaalada magaalooyinka waaweyn ee Soomaalidu degan tahay waxaa laga yaabaa 50% ka badan inay muslimiin yihiin hadda qaybteeda isbitaalka inta joogta 13 consultant waxaa caddaana 2 qof kaliya maxaa la yiraahdaa 11 kale waa ajnabi inta u badanna waa dad muslimiin oo mutadayiniin oo ahlu salaad ah marka qof dhakhtar ah oo aan ogahay ama aan aqaano oo u qasdahay qof bilaadan inuu dilo ma jirto marka dadka waxaan dhihi lahaa qofkii xanuunsan talada caafimaadka ha raadsado isbitaalka ha tago ama wax covid la xiriira oo mataqaana qofku ama neeftuur ha isku arko ama neefta ku dhagto ama xataa waxaan covid la xiriirin oo haddii maalan ay stroke ku dhacdo oo maxaa la yiraahdaa gacan qallasho ama wadnaha laga qabto inuu qofku uu aado talada caafimaadka oo aado isbitaalkan aadan kula talinaha hadda u mahadsan tahay Dr. Cabdisamed sida kooban oo noogu soo maaragtay faahfaahisay su-aashaas su-aal baa jirtay la weydiiyey oo ah maaragtay in ay jirto guddi taleed qaabilsan arrimahaanayta oo Soomaalida runtii golaha qurbi joogta Soomaaliyeed waxay samaysay muxuu ahaa yani barnaamijkan wacyigelinta ayaanu samaynay oo aan ugu talagalnay in aan maaragtay usbuuc kasta aanu ku siino dadka wacyigelin aanu ku samayno oo mar walba khubro dad maaragna ku takhasusay dhakhaatiir muxuu ahaa dhinaca diinta dhinaca maaragna jaaliyadda dadka la shaqeeya ah inaanu keenno usbuuc kasta aanu nasiino wadan walba maaragtay waqti baan siinayna sanadkan marka usbuucan waxaanu ka hadlaynay
UK baanu ka hadlaynay isbuuc soo socda waxa weeyaan Australia ayaa maaragtay ayaa ka hadli doonta wakiilada inoo jooga marka saas u wareegan doonaa muxuu ahaa macluumaadka u baahan maaragtay dadka inay arrimahaasito ama ay la socdaan ama ay nala soo xiriiraan ama website-keena ama social media na Facebook ama Twitter-ka GSD ayaad nagala soo xiriiri kartaan UK oo kale anigu aan joogo waanu yani jaaridaha Soomaalida oo dhan waanu isku nimid oo maaragtay runtii arrimahaasito waanu ka tashanay waana ka shaqaynaynaa weli sidii maaragtay la isaga kaashan lahaa laakiin marka la fiiriyo caalam ahaan marka la fiiriyo GSD iyadu waxay tahay xubinta markino ama waxaan dhihi karaa forumka ugu habboon oo maaragtay inay dadku ay la soo xiriiraan si maaragtay ama waxyaabaha u baahan tihiin ama talada inaan idinka maaragtay waafino ama hadii kale cidii ugu habboon oo aan idinku xiri karno maaragtay inaanu idinku xirno barnaamijkeenina maanta sidaas ayaanu ugu soo gabagabaynaynaa halkan waxaan mar kale jeclaan lahaa inaan u mahadnaqo ka qaybgalayaashii martida inoogu ahaa maanta anigoo ku horumaraya Sheekh Cismaan Xaaji Sheekh Suuli sidii sharafta leeyahay waqtigiisa inoo soo siiyay maanta Dr. Cabdisamed Cali oo asaguna maaragtay aad iyo aad runtii dhinaca caafimaadka nooga qabtiray iyo caashiraaga iyaduna oo nala qaybsatay dadaalka weyn ee maaragtay jaaliduhu ay runtii ugu jiraan sidii ay maaragtay dadka dhibaateeyay cudurkan ay u caawin lahaayeen waxaan si aad u jeclaan lahaa inaan aad ugu mahadnaqo Mandeeq runtii Mandeeq wax weeyaan ma arki kartaan adinku laakiin behind the scenes waa qofka waxaan oo dhan technical isku soo dabariday oo soo aruurisay oo soo qabanqaabisay oo waxaan oo dhan maaragtay runtii nagala shaqeysay nagana saacidaysa dhinaca maaragtay waxyaabaha teknolojiyada aad iyo aad baad u mahadsantihiin intiina maaragtay khadkan internetka nagala soo qayb qaadatay oo na dhageysanaysana waa idinkaga mahad celinaynaa waqtigeena aana siiseen sidoo kale hadday jiraan maaragtay su'aalo aan maaragtay aad soo gudbiseen oo laga jawaabinin waxaan isku dayaynaa inaan khadka maaragtay social media maaragtay aanu idinku soo gudbino intiina adinka aan u lahayn nasiibka u helinin inay nagala soo qayb galaanna barnaamijku asaguna waa duuban yahay oo maaragtay barta internetka Facebook golaha joogta Soomaali GSD ayaad kala socon kartaan oo aad waqtigeena faraqada aad ku dhageysan kartaan aad iyo aad baa u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh